السلام عليكم دنير aad baan salaamayaa feed wanaagsan Axmed Xaashi Fahad dhamaantiin soo dhawaada Sundus Ismaaciil dhamaantiin saaxiibayaal soo dhawaada habeenku ha idin wacnaado I hope in aad u fiican tihiin I hope inaad maqlaysaan Axmed soo dhaw أستاذ زكريا أدبو ما سنتهاي دمان خيارته سود وينيا سلم ذا رنتي موضوع عادو بلارن وحس لي هاي حوجا أنت عيدتك سوق الأيام إلى شنطة أنسينه كدمني إن شاء الله وحرجيني إنه برنامج نود بلابن دونه خيارته هذا كتير توح قاعد سنة إن شاء الله سي برنامج كده دونه وقف هذيستان إني ريتويت كريان أو أي لا سعدان ogeysiinta ku saabsan dooda caawa oo runtii ah barnaamij aad u ballaaran mudana dad badan insha Allah inay ka faa'iideystaan rajayna hadii alla idmo ustaadna aad u mahadsantahay dooda qiimaha leh inaad noo martigelisay aad waxa weeye waxaan rabnaa insha Allah taala maadaama mashquulku iska badan yahay aqoontuna iskeedaba ay tahay wax maalintii alla keenaba kaaga baahan inaad baratid aanay dhamaanayn mar walba wax baratidna ay sii badanayso aqoonta marka ka baratid ama aad raadaysid way badataa farahay ka baxdaa marka as a youth dhalinyar Soomaaliyeed inaynu bal maadaama siyaasadda aad loogu badan yahay dowladaha siyaasadda fadhi ku diriyada iyo wixii lamid aad loogu badan yahay aynu part of our time aynu siino bal wixii nafteena iyo dadkeenaba ay dantu ugu jirto ninka maanta dhalinyarta ah 20 ka sareeya 25 gaaraya ilaa wixii ka sareeya 40 jir ama 45 25 to 45 aan waxba la soo bixi karayn shaqaysan karayn financial independent aan ahayn waxa weeye oo ka sheekeynaya siyaasad iyo madaxweynahana fiican iyo wasiir hebel fiican iyo sidan weeye xag ka dhacday ogolayn inuu waqtigiisa bal qaybo uu dooda qulka iyo wixii nafsiisa u qabanaya uu barto ninkaasi 60 years 40 years 50 years kolku gaaro muxuu ku dambeyn doonaa muxuu se u noolaan doonaa way caalamka hadda waxaan ka fikiraynaa ama dadku ay ka fikirayaan qofka saliim markuu yahay wuxuu ka fikirayaa saaca bisaaca adduunkaagiina waxa weeye ka shaqayso aakhiradaadiina waxa weeye u shaqayso laakiin dhalinyaro oo baahan oo bariyo badan oo baahi badan oo waxba haysan oo qofna ma rabo qofka dadku ugu dhow gabadha aad waxa weeye saaxiibadii habeenii maalin wada socotaan haddii ay shiitahay kuma rabto qof kasta uu ka cararay qofka maalin wax weydiisid laba weydiisid uu ka escape gareynay marka waxaan uga soconnaa si aynu uga baxno marka waxyaalaha aynu sheegnay oo aynu ugu baxno inaynu qof isku tashaday hore u socday wax la soo baxay fursadaha faraha badan ee caalamka yaalla ka faa'iideystay waa inuu aqoon dhiso waayo anigu waxaan aaminsanahay macallinna waa ahay horena waa u soo ahaa ilaa 2015 bahda waxbarashadan ku jiray I really believe good education waxay soo saartaa waxa weeye qof isku tashtay meel ka soo baxay aan soo waxa u badan ina xumeeyay ama meel xun ina dhigay ama systemkeena caawa inuu ka hadli doono xumeeyay ama every party oo wadankeena tahay u sareysa ilaa iyo hadii ay family tahay xaq oo hooseysa waxa ina burburiyay waxay tahay waxbarasho xumo ama waxbarasho la'aanba marka waxbarasho la'aantuna waxa ka sii xun waxbarasho xumada marka caawa doodeenan sida uu Axmed sheegay saaxiibayaal waxaan rabnaa inaan ka hadalno bangiyada Soomaaliya iyo doorka horumarka dhalinyarada suuqa forex ama horumarka waxa weeye dhalinyarteena Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed oo dhan ay joogaan waxaynu eegi doonaa brief story ama brief history oo ku saabsan bangiyada Soomaaliya xagee ka yimaadeen maantana xagee marayaan waxaynu isla eegi doonaa taariikh kooban oo ku saabsan Central Bank of Somalia regulationskiisa iyo wixii la mid ah waxaynu eegaynaa maxaa ina ka dhigay wadankeena bangiyadiisa markaa furatid inaad si international u ganacsato ama wax ugu iibsato hadda dadka Soomaalida ganacsatada ah min Hargeysa Boosaaso ilaa Muqdisho
jooga ilaa Kismaayo waxay wada haystaan sharci waddan kale ugu yaraan Ethiopian ama Kenyan qofkii aan Imaaraad iyo Mareykan iyo Faransiis haysan intaas haystaa wuu ku ganacsanayaa xoojaynu ku aadaya alaabu soo gadanaya laakiin adiga markaas tiraahdo ganacso it's really hard for you way kugu adag tahay inkastoo sanadihii 18 wixii loo soo gaaray Soomaaliya financial systemkeedu horumar aad u fiican sameeyay haddana waxa weeye sidii la rabay ma nihin haddana waxa weeye waddan dadkiisu diiwaan sharciga maaliyadda IMF ama bank buuxiyay ma nihin bangiyadeenu waa bangiyada ugu xun Afrika financial system keeno financial system ugu xun Afrika adduunka ka hadlamaya Afrika marka ayada waxaas oo dhan jiraan been rabnaa bal inaynu eegno maxaa macquul ah qofka dhalinyarta Soomaaliyeed ee meel kale jooga faa'iidooyinka ku haysto bangiyada kale iyo waxyaalaha aanu ku haysan qofka wadankii jooga waxyaalaha ka maqan anigu aan kamid ahay including me been ka hadli doonaa and then waxaanu ku soo gabagabeyn doonaa inaynu opinions aynu insha Allah taala isdhaafsano iyo khibrado habeenkii dhawto Twitterku space baan ugu dheeraaday laakiin caawa ma rabo inuu dheeraado maadaama topican uu interesting aad ay yahayna waxa weeye waxaan ku hadli doonaa research usbuucan oo dhan aan sameynay background-kayga anigu maan dhigan ama special-kaygu ma aha waxa loo yaqaano financial and banking system-ka iyo wixii financial-ka la xiriiro oo dhan laakiin hadda aqoontu caawa meel kasta taala waxa weeye waxa laga yaabaa in badan information caawa sheegi doono banking system-ka ama Islamic banking system-ka dad bartay inaynu ay xogaha aynu sheegno aqoontuna waa free banaanka taala research maanta haddii aad u kacdid inaad samaysid anything u ahaado in 7 days or 5 hours aad gelisidii wax la mid ah research ku fiican soo samayn doontaa marka aniga research maan samayn oo laakiin waxaan sameeyay in aan bal banking system Soomaaliya wax badan aan ka ogaado waayo mobile money-ga Soomaaliya aad loogu isticmaalaa xawaaladu aad u shaqeeyaan bangiyada Soomaaliya aad u shaqeeyaan regulations qiyaasiga ruqsadaha yaasiya xagee waxaan ka yimaadeen ma la isku aamini karaa lacagta maanta golis ii taala ama EVC ii taala ama ZAD ii taala ama Sahal ii taala ama Somtel ii taala ma ku kalsoonaan karaa inaan lacagtaas aan daasto oo halka ay ugu jirto mise banka rabti ku dhici kara Somtel iyo Telesom iyo Hormuud iyo golis aan soo on marka mar walbo aad baadhin waad soo helaysaa marka saaxiibayaal insha Allah taala barnaamijkeena guda galayna maadaama aynu ku dhannahay already meesha bangiyadeena Soomaaliya marka horeysa waa inaynu fahnaa xal ka yimaado sida u shaqeeya yaa maamula yaa xeerka siiya liquidka xagee ka helaan lacagta taala ama lacagta ay ku siinayaan marka bangi waxa weeye lacag dhigatid liquidity-ga xawka kana aan soo and then markaas inuu ogaan doonaa maxaynu adduunka uga hadhnay bangiyada Kenya oo kale ama bangiyada Ethiopia ama kuwa Djibouti maxay uga duwan yihiin kuwa markaas inuu hadda waxay ogaan doonaa inaynu bal maxaynu ka qaban karnaa arrintan as dhalinyaro marka saaxiibayaal inta u badan Dr. Aweys Ali Dr. la dhaho heritage xuquuq qorqora baan aad waxa weeye qormooyinkiisa iyo bangiyada caalamiga soo hadlo PhD holder ayaan ka keena aadna u akhristaa waddankeena Soomaaliya bangigii u horeeyay laga dhiso ama laga furo wuxuu ahaa 1920s-kii 1922-kii buu ahaa 23 inuu ahaa jeclahay waa xilligii gumeystaha bankida Itaaliya baa la dhihi jiray sanadihii dambe marka weeye bankigaas horta aad wuxuu ka shaqeyn jiray maalgelinta iyo dhiirigelinta wax soo saarka mooska iyo xoolaha iyo dhammaan waxyaalaha agriculture-ka aad u maalgelin jiray bankiga noocaas uu ahaa 1920 waa garanaysa maanta aynu 103 sano ka joogno inta adduunku isbedelay bangiyada kale ee xilligii gumeystaha waddankeena ku yaalay waxa kamid ah Banki di Napoli iyo Banki di Roma oo 1937 iyo 58-kii la kala furay marka waxa garanaysa magacyadooda inay Talyaani ahaayeen oo badanaa Banki di Roma iyo waxay ku yaaleen koonfurta u badnaayeen marka iyo Kismaayo iyo Muqdisho inta u baxrumo ku lahaayeen marka dadka lacagta haysta oo dhulkii koonfurta la isku dhigi jiray oo Talyaaniga ahaa raba inay bangiyada la macaamilaan qofku wuxuu ka tagayaa Boosaaso iyo meesha uu joogo wuxuu aadayaa meesha ugu dhow ama marka ama Kismaayo si uu marka bangiyada ula macaamilo ama lacag u dhigto ama lacag u qaato marka
lacagtii u horreysay Soomaaliya waxaa loo daabacay 1950s-kii oo shirkad waxa weeye Talyaani ah u daabacday Manatee Della baa la dhihi jiray oo independent ahayd oo madax bannaanayd isla 1950s-kii xilliga Soomaaliya ay shirkadaasi joogtay Manatee Della waxa Somaliland intii la isku dhihi jiray ama waqooyi la isku dhihi jiray joogtay National Bank of India ayaa Ingiriisku ka furay waa bankiga u horreeyay Somaliland laga furo Hargeysa ayaa laga furay oo markaa dambe magaciisa waxaa loo bedelay National Friendly Bank baa loo bedelay oo Hindi baa lahayd ama Hindi National Bank of India sida magaca ka garanaysid maadaama India uu Ingiriis gumaysan jiray sidoo kale Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya wixii la dhihi jiray halkaas bankiga u horreeyay 1950 something baa isagana laga furay 1954 meelahaas marka dambe oo labadii Soomaaliyeed la isku darayo Hargeysa iyo Muqdisho ayaa bangigii National Bank of India wuxuu xaruntiisa u horreeyay ka samaystay koonfur Muqdisho markii u horreysay markii gumaystuhu uu tegay ayaa waxaa la asaasay National Bank of Somalia National Bank of Somalia Soomaaliya waxay ku noqonaysaa bangiga qaranka Soomaaliyeed wax la mid ah waa markii u horreysay ee la sameeyay waxay tala bixin shirkadda lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka oo ay ka tala bixiyeen waxna ka dhiseen taladana ay wax ku lahaayeen 1960 dawladda u horreysay Soomaaliyeed xornimada kadib 1960 ilaa iyo 1970 xilligii dawladdii kacaanka ay waddanka la wareegtay waddanka waxa haystay waddanka ka shaqeynayay National Bank of Somalia ayaa bankiga guud ee ruqsadaha bixiya centerka banking systemka koonfur ilaa waqooyi ilaa bari u ahaa dawladdii marka 1971 ayay waxay samaysay bangiga ganacsiga Soomaaliya oo bangiga ganacsiga Soomaaliya waxaa laga sameeyay Italia Bank de Roma Bank de Napoli iyo bankiyo kale oo jiray marka ba inta wixii la xiray hilfaha loo laaday ayaa waxaa la iskaga dhigay waxa loo yaqaano bangiga ganacsiga Soomaaliyeed bangiga ganacsiga Soomaaliyeed baa laga dhigay bangiyadii jiray oo iska dhan marka maxaa jira marka bangiga ganacsiga Soomaaliyeed oo ku Talyaaniga oo individuals ay lahaayeen private ahaa maalgelin bixin jiray interest rate lahaa wax kasta lahaa in dawladdu intay burburiso hal bangi laga dhigo oo loo yaqaano bangiga ganacsiga Soomaaliya hantidii taale ee dadweynaha iyo deymihii yaale iyo wax walbana oo ay dawladdu la wareegto sida hanti wadaag lagu noqdo waxa kale oo ay dawladdu ka cansay bangiga deymaha iyo kaydka Soomaaliya oo la wareegay waxa weeye hawlihii bangiga qaranka Soomaaliyeed bangiga qaranka Soomaaliyeed National Bank of Somalia hawlihiisi inta u badnayd waxaa la wareegay bangiga deymaha iyo kaydka oo isagoo ka furnaa waxa weeye 5 magaalo ka furnaa Kismaayo iyo Boosaaso Beledweyne Gaalkacyo iyo Hargeysa intaas ka furnaa iyo Muqdisho halka xaaladdu markay marayso 1975 National Bank of Somalia ayaa waxaa lagu bedelay magaciisii Central Bank of Somalia waa ka hadda shaqeeya Central Bank of Somalia burburkii ilaa hadda ilaa dawladihii kala duwanaa laga soo in dib loo furay ilaa iyo haddeer regulationska iyo ruqsadaha laga bixiyo markaas la sameeyay 1975 hadda daartina banki Soomaaliya ka furitay waxa rabtay oo bixi shuruudaha markaad bixisid ruqsadda waxa ka doonaysaa Central Bank of Somalia ayaad ka doonanaysaa waa 1975 ayaa la sameeyay waxaana laga bedelay oo laga soo minguuriyay bankiga qaranka Soomaaliya National Bank of Somalia 1977kii dagaalkii Ethiopia Soomaaliya galbeed markii la aaday waddanku wuxuu maray meeshiisii u sarreysay dhul Soomaaliyeed ama dal Afrikaana uu gaaro xagga dhaqaalaha banking systemka deymaha wax soo saarka agriculture-ka xoolo dhoofinta iyo warshadaha waddanku iskeeda dagaal hadii la galona de wax hawl yar ma shidaal badan buu baahan yahay saad badan buu baahay cunto badan wixii hantidii dawladdu ay lahayd intii u badnayd waxay ku baxday dagaalkii 77kii antan dagaalka marka laga soo noqday waddanku wuxuu galay sicir barar deymo aad u far badan la inuu ku yeesho uu qaaday oo infrastructure-ka wadooyinka badana waddanka hadda ka jira oo isku xira muxuu ahaay Minhala iyo Dila ilaa iyo Boorama ilaa iyo muxuu ahaay Muqdisho barigaas inta u badan deymaha la soo qaaday oo Ruush iyo ay bixinayeen deymahaasina deymaha maanta leena ku leeyahay
lacagta Soomaaliya lagu leeyahay waxa la soo qaaday xilligaas la soo qaaday 1978kii wixii lamida sicir bararka marka wadanku uu dhacay si oo la daala dhacay jabhadii wixii sameeyay 1991kii wax walba waa burbureen madaxtooyadii waa loo daatay wasaaradii baa loo daatay bangiyadii wadanku lahaa waa loo daatay lacagii bangiyada taalay baa la dhacay everything dhulkay galeen documentiskii baa xataa lumay bangiyada regulationskoodii xeerarkoodii everything wasaaradii qorsheynta qaranka wasaaradii maaliyadda qaranka everything wuu lumay waayo Soomaalidu dad waxa weeye la xajeclo ma aha haba la dhaco wixii lacagta le laakiin in waraaqahan waxay haysano bay ahayd ugu yaraan la helo recordka Soomaaliya xataa xeelaha hadda aadka loola yaa waxa weeye waxa ka mid ah in dawladahan deymaha in ku leeyihiin xataa lama hubo iyagu way haystaan waraaqahooda waxaasan qabanay intaasan idin ku leenahay laakiin lacagta u badan la ku leeyahay lama garanayo tixraaceedii lama hayo waxay ku leeyihiin soo saar dawladdii marka waraaqihii wixii ka tagtay waxa weeye waa dab baa lagu shitay shaah baa lagu karsaday documentigii oo dhan okay halka marka wadanka maray galay humanitarian crisis buu galay wax kasta dhulkay galeen waxa weeye Soomaalidu waa islaysay reerkii u dhawaabuu xasuuqay ama laayay 1994kii marka ayaa Soomaaliland waxay dhisatay waxa loo yaqaano markii ay dheen Soomaaliya ayaanu madax banaanid dib uga noqonay Central Bank of Somaliland oo mas'uul ka ahaa ruqsad bixinta in deymaha iyo waxyaalaha la mid ah la isdhaafsado in bangiga lacagta kaydinta qaranka aan soo isla Puntland sanadkii ay asaasantay sanadihii ku xigay waxay aasaasatay bangigeedii u gaarka ahaa Puntland Bank si uu isla shaqadaas oo kale u qabto oo ruqsad bixinta iyo wixii la mid ah 2009 marka inta u dhaxaysay dawladda vacuum ba ku jiray wax bangi iska daayo waxa laga dooday talow ma la noolaan doona aan soo 2009 ayaa dib waxa loo furay Central Bank of Somalia markii u horeysay tan iyo 1991 markii dawladda burburtay January dib u furitaanka bangiga Central Bank of Somalia la furay caalamku soo dhaweeyay waana waxyaalihii ka qayb qaatay dawladda Mareykanka oo kale inay aqoonsigii ay dib inuu ku celiso 2012 ayaa Central Bank ayaa waxa loo siiyay ama uu dhamaantoos ula wareegay kormeerka hay'adaha maxalliga ah ruqsad bixinta kormeerada hay'adaha kaydiya ama bixiya lacagaha xawaaladaha dadweynaha waxa soo dhan shaqadoodii inay ruqsad ka helaan waayo ina hadda ganacsi samaysay Muqdisho Hargeysa meel walba saaso ruqsad u baahan tahay ruqsadda meesha ka soo qaadanaysid marka bangi hadda tahay xawaalad haddii aad tahay electronic money-ga mobilada la isugu diro oo aad shirkad waxa weeye telecommunication asoon marka waxa ka qaadanaysaa bangiga dhexe ee Central Bank of Somalia 2014 ba haddana waxay Central Bank of Somalia maadaama si toos ah u shaqeynay iminka wuxuu abuuray ama sameeyay shuruucda ruqsadaha bangiyada Soomaaliya mashruucda ruqsadaha bangiyada Soomaaliya oo ah in haddii qof aad adigu tahay bangi raba inaa corporation ama campaign raba inuu bangi furto sale minimum ina haysatid lacag ah $5 milyan ba waxyaalaha requirements ka ka mid tahay marka shuruucda noocaas ayaa 2014kii la dhisay ama la hormariyay saraakiisha bangiga dhexe ee Soomaaliya ay hormariyeen isla 2016kii waxa uu bangigu hormariyay inta caalamka way adkay in lacag leeno soo diro oo qofka Soomaaliya jooga waxa weeye xawaalad buu wax loogu soo diri jiray xawaaladuna way adkayd sida ay waxa weeye wadan Mareykanka oo kale ama Ingiriiska oo kale ay ruqsad uga hesho maadaama wadanka lacagta lagu dirayo iyo qofka loo dirayo aan wax verification jirin aan la garanayn lacagtan meesha la marinayo $10,000 kala soo diraysa Ingiriiska ka soo diraysa Soomaaliya u diraysa no one qofkan qaadanayo waxa uu yahay caalamku waa la isaqaana marka bangi furanaysa KYC verification baa jira aan soo marka waxa la sameeyay sharcigii lacagaha waa sharciga ka hortagga lacagaha sharci darrada ah iyo maalgelinta argagixisada ayaa la sameeyay 2016 isla 2016 waxa la sameeyay shuruucda ku filaanta raasamaalka iyo maareynta khatarta lacagta waayo waxyaalaha muhiimka iyaduna waxa ka mid ah in bangi marka taako lagu ogaani maareynta khatarta oo risk management ina leedahay in asset uu bangigu leeyahay in waxyaalaha khaldamo uu bangigu kabi karo aan soo adoo zero ah dad bangi aan furanaya laga yeelma
internal audits waxa loo iyadana la sameeyay 2016kii oo ah shuruucda xisaabaadka gudaha 2017kii ayaa iyadana banking system Soomaaliya oo meeshii u fiicneed abid u tagay ilaa 2022kii 2017kii waxa la hirgeliyay sharciga bangiyada ganacsiga inay xisaabtooda u gudbiyaan bangiga dhexe ee Soomaaliya si sanad ah 2017kii I think bilihii dhexe bay ahayd Central Bank of Somalia ayaa qawaaniin u sameeyay xawaaladaha ganacsiga iyo xisaabaha maaliyadaha ama xawaalada badan oo ganacsi wax jira agentiisa waxa jira xawaalado badan oo maaliyadeed sharcigooda marka 2014kii ahaa ayaa la sii update gareeyay shuruucdii dambeysana lagu daray 20 markaas 16kii sidaas lagu hirgashay 2018kii afwan 2020kii oo ah xilligii bunugta Soomaaliya ama wadanka qaybtiisa maaliyadu ay aad u horumarsan ayaa waxa la sameeyay qawaaniinta lacagta mobilada waayo qof walba programmer ah intuu hawa samaysto dhaya $100 ku diray lambar baa shaashada ku istaagaya and then $100 buu ka qaadanaya so waa in waxaan lacag leedahay qof walba lacag digital uu samayn kara una abuuri kara awoodeeda leh laakiin qawaaniin leedahay qawaaniinta waxa la sameeyay 2020 waayo wadanku maalin meel buu joogay dawladdu meel bay keentay waxa weeye qofba in buu ka sii qaaday okay taas waxay kor u qaaday marka in maalgelintii caalamiga ahayd deyn cafintii iyo wax walbo bangiga adduunka iyo IMF regulation oo ah in ay ina ku taageeraan arrinta aynu sameynay oo ay soo dhawaato siyaalaha Soomaalidu ay ku heli karto adeegyo maaliyadeed bafudaaday qawaaniinta lacagta mobilada markii la sameeyo marka qawaaniinta lacagta mobiladu dib badan bay iyadana keenay I mean mobilada lacagta ku jira dib badan bay mar walba in qofna aan rabin inuu shilinkii isticmaalo hadda Soomaaliland oo kale aad u xakameysay inay domasho wadanka dollarka waxyaalaha weyn laakiin qof dhalinyaro ama qof reer gabigooduba $100 qoodanayo dollar waxba tari maayo laakiin waxa wax taraya waa shilimaad waa shilin 200 shilin aan soo inkastoo lacagtu ay u baahan tahay regulations gaar ah iyo waxyaalaha aad u fara badan aqoon badan u baahan tahay haddana caqabad badan aad timi heer wuxuu gaaray sarifka shilin Soomaaligu bangigii dhexe ee Soomaaliya uu goyn kari waayo oo ganacsatada bakaaraha joogta ay goyso ganacsiga ama sariflaha bakaaraha fadhiyo suuqa bakaaraha uu dhaho maanta halka dollar waa 22,000 oo shilin iyagu gooyaan waayo ma jirto waxa loo yaqaano monetary policy aad u adag wadanka kama jirto laakiin sharciga la sameeyay ee lacagaha mobilada ama e-moneyga ah isagoo ina saacidaya at the same time dhibaatooyin aad u fara badan jira oo keenaysay in marka wadanku 100% ahaan waayo marka 2020kii baa sameeyay first national payment system waa markii u horeysay dawlad Soomaaliyeed ay samaysato national payment system ilaa haddana uu shaqeynayo jiro oo national payment system waxa weeye nidaamka lacag dirida qaranka 13 bangi oo Soomaaliya la isku xiray saddexdii bilood ee u horeysay waxaa dhex maray 300,000 oo transaction lacag 250 milyan ku dhowna way dhex martay marka in caalamku ina aamino bangiyadena aamino qawaaniinta noocan oo kala ah waa kor u qaadaysa bankiga inuu diiwaan gashay transactionkii diiwaan gashay yahay central bankiga Soomaaliya uu shaqeynayo oo la og yahay inta transaction oo dhacay la diiwaan geliyay transactionadani marka dambe waxay gaari doonaan ilaa iyo waxa weeye billions bay gaari doonaan waa waxyaalaha ka dhigay 2021 in hay'adda ama wasaaradda maaliyadda iyo Central Bank of Somalia iyo wax kasto maaliyada ay xilligii u fiicnaatan iyo burburkii ay marayaan 1991 ay gaadheen halka barkeenu marayno waxa weeye lacagta mobilada marka lacagta mobilada Soomaaliya waxa la lahaa 80% dadku waxay isticmaalaan lacagta mobilada 8% waxay isticmaalaan bangiyada Soomaaliya ku yaala 8% waa isticmaal marka waxa jira bangiyo badan oo Central Bank of Somalia ruqsado ganacsi ka haysta waxa kamid ah bangiga loo yaqaan Amal Banki oo malaha inta hadda bangiyada jira
kii u horreeyay 1998 kii waa la sameeyey laakiin ruqsadda mar dambe uu ka qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya Central Bank of Somalia bangiga Ammaano baa jira bangiga Bulsho baa jira bangiga waxaa jira isaguna Dahabshiil bangiga caalamiga International Bank of Dahabshiil oo 2014 ruqsaddiisa ama banginimadiisa qaatay Dahabshiil weligeed way jirtay laakiin xawaalada waaye waxa aad ka weligeed u jirtay bangiga Daryeel baa isaguna jira oo ilaa 2006 bangiyada ugu wada kamid ah May Bank baa jira Premium Bank oo isaguna hadda aad loo isticmaalo Mastercard Visa card waxyaalaha fududeeyay ayaa isaguna jira 2013 kii ruqsaddiisa wixiisa qaatay Soma Bank baa jira bangiga Soomaaliya ee Salaam baa isaguna 2009 meelaha ruqsaddiisa qaatay and so on marka lacagaha xawaaladuhu ama lacagaha moobiladu intooda u badan waxa regulationskeeda iyo xeerkeeda dejiya hay'adda isgaarsiinta qaranka National Communication Agent iyo saas ahayd waa in sadaheeda ama hadda daan dhaho shirkad baan samaystay Golis oo kala ama EVCM ama Hormuud oo kala waa in national waxa weeye ka heshaa ruqsadda ganacsiga iyaguna si ay ruqsadda ku siiyaan waxaad lagaga baahan yahay regulations iyo shuruudo inaad buuxisid marka afar shirkadood ama mobile money lacagaha mobilka lagu isticmaalo shirkado Soomaaliya jira ruqsado ka haysta waxa weeye hay'adda isgaarsiinta qaranka waa Somtel shirkadda loo yaqaano Hormuud Telecom Somalia LTD Somali Link iyo Golis Telecom intaas ayaa waxa haystaan waxa loo yaqaan ruqsadaha Soomaaliya 5 weeyaan malaynaya marka ruqsaddaas waxay u sahlaysaa in ay regulations qaataan way waxaan ruqsad lahayn la isku halayn karay Golis Somtel and so on marka iyaduna waxa jirta aad financial systemka wadanka uga qayb qaadatay xawaaladaha lacagaha oo garanayna Ammaano iyo Tawakkal iyo xagan imisa xawaalad lacag ka soo qaadayni reer aan malaha wuxuu dibadda looga soo dirin ma jirin faa'iido markuu burburkii dhacay dadkii waxa u yaacay caalamka u yaacay qofkii qof u tagay marka 1990 iyo wixii ka soo dambeeyay 1991 wixii ka soo dambeeyay uu badbaaday oo wuxuu baa loo soo diray laakiin cidii kale waxa weeye way ku adkaatay nolosha xaqiiqatan waayo inflation ku cirku galay lacago fake ah oo wadanka ka soo buuxsamay agriculture-kii baa burburay xoolihii baa baaba'ay abaarihii baa batay meel walba hubbaa dininigi leh in la noolaada way adkayd waqtiyada qaar Soomaaliya laakiin dad badan waxay ku baxsadeen xawaaladaha oo inkastoo dhibaatooyinkooda ay wataan iyo regulation la'aantooda iyo wixii ay wadanka ay ahayd inay dhankooda ka qaataan aanay ahayn khidmadooda badnayd iyo waxyaalo la mid ah haddana waxa way aad baa loogu badbaaday sidoo kale mobile money wuxuu leeyahay khasaaro iyo faa'iido uu leeyahay waayo waxaan noqonay wadamada ugu horeeya ee isticmaala ugu horumarsan xagga mobile money-ga wadamada badan hadda Africa oo kale dhowr wadan aan tagay way adagtahay hadda Ethiopia ay noo dhow oo kale way adagtahay mobile money inuu qofku isticmaalo wala isticmaalaa oo furan kara qofku laakiin qofka ku shaqeeya ka hawl ka raba kaashka gacantiisa buu ku leeyahay Kenya sidoo kale aad ay horumarsan tahay Kenya Rwanda sidoo kale waxa way mobile money way adagtahay dadku in isticmaalaan oo halka inaga 80% mobile money sidano boqolkii qof 80 kamida sahal iyo zaad iyo EVC waa u furan laakiin xaga xalaya 40% ka u furnayn xataa marka xawaaladaha lacagta ruqsadda leh ee bangiga dhexe ee Soomaaliya uu siiyay waa 12 xawaaladood oo intaan hadda ka garanayo waxa uu horeeyay xawaalada Amal oo kale Amal Express muddo jirtay Dahabshiil xawaalada Taaj Iftin iyo Tawakkal badankooda waxay ka shaqeeyaan caalamka oo dhan xeelaha aad kale waxa weeye waxa kamid ah inaan maalin dhexdaas aan Rwanda tagay baa waxa dhacday Kigali samarkan uga degay gaari oo meel hotel aan tagay waxaan arkay next to me Dahabshiil ugu dhigay Dahabshiil baan galay marka koomado ka sheekeynay ka shaqeynay markiiba waxay noqotay inay dhahaan war hadda sanad 2 sano ka hor laga asaasay meesha marka xawaaladaheena Soomaaliya meel walba ku yaala international wide وهذا ذهب شيء لوكالي very aad u horeysa marka waxa kale iyaduna jira doodayda oo soo gaabinaya waxa iyaduna jira ama hordhacayaga waxa iyaduna jira bangiyo ajnabi ah oo wadanka laga furay sanadkii 2022 intii dawladdan cusub ay timi laba bangi baa yimi wadankeena oo la dhaho bangi Turkish ah iyo bangi Masar ah HFT Misr iyo Sirat wad mid la dhaho Turkiga labada bangi wax badan bay soo kordhiyeen wax badanna
ودad baa dhaliilay oo in tartan uu meesha yimaado bangiyadii Soomaaliyeed ee muxuu ahaaye hadda maalgelinta oo kale bangiyada bixiya muraabaxa iyo maxay dhahaan iyo dhowr wax bay ku bixiyaan markii lacag bixiyo way adag tahay inay maalgelin ku siiyaan bangi inuu ku siiyo Soomaaliya meel kasta aad joogtid waxa kaliya maalgeliyaan ama ay jecel yihiin inay maalgeliyaan ayaa waxay tahay real estate ka ama waxyaalaha hantida maguurtada ah hantida maguurta ah waa lagu maalgelinaya laakiin qof dhalinyaro ah raba inuu dabakaayo furto $1,000 ku furto mid raba shirkad yar mid raba waxa weeye soo qabo beer mid raba wax soo saar mid raba inuu meelahan wadamada dariska wax ka keeno aan soo an waxa laga maalgelinayo ha ku wareerin waayo aniga hadda kor waxay ku dhahay 2018 ay ahayd waxa uu tagay bangi kamida bangiyada Boosaaso ku yaal magaalada Boosaaso waxa weydiistay maalgelin waxay u dheen maxaan ku maalgelinaa waxaan soo qortay wixii shuruud la iga rabay oo dhan waa keenay marka waad garanaysaa bangi wadankeenu ee hadda dawladaha caalamka waxay bixiyaan qofka muwaadinka hadduu register gareysan yahay wajigiisa iyo registerkiisu ku qaadanaya deynta uu rabo laakiin inaga Soomaaliya maadaama aanay jirin waxa weeye diiwaangelinta qaranka waxa la dhaho aanay dadku diiwaan gashanayn la iska soconayo la iska yaacayo magacu rabo qofku 5 magac jaamacadiina magac ku dhigtay secondaryga magac ku dhigtay baasaboorkiina magac ugu qoran yahay waxa marka fudud inay hantidii lunto marka maadaama taasi ay u fududahay sidoo kale waxa adag in lagu aamino cid kasta ah laakiin lagu aamini maayo waxa lagu aaminayo hebel oo ganacsada ah oo magaalada degan ina keentid guriyo leh baabuur leh hanti leh haddii lacagteeda aad la goysid si aan isaga u qabsano marka shuruud walba oo la iga rabay waa buuxiyay proposal qoro kan samee aan soo on lacagta rabay marka ma badnayn waxaan maalgelin rabayna waxa shirkad bay ahayd aan marka ugu talagalay poultry production inaan ku sameeyo farm bear adan everything way dhaceen waa buuxiyay interviewga la yeeshay wax kasta andan waxay hoos la dhigay xaqiiqatan aad ba maalinta uga carooday laakiin khayrka ku jiray wax tagay inaan ka qomeysid ma marka waxa dhacday inaan haddana mid kale isku dayay no waaya waxa ay uncle maxay diidan yihiin damaanada adiga ah lacagta waxa ku leeynahay markii dambe cilada aan raadiyay waxaan ogaaday in ay jirto waxyaalo ay maalgeliyaan iyo waxyaalo aan maalgelinba marka laga yimaado kulli waana joogan rag badan oo waxa weeye bangiyo ka shaqeeya asxaab caaw ku jira meeshan way garanayaan regulations iyo waxyaalaha haddaan hadda wax ka bedelin laakiin waxyaalaha qofka lacag lagu siiyo marka wadankeena maadaama ay aad u liidato adigoo dhalinyaro ah in maalgelin lagu siiyo hibadii ilaahay ku siiyay ay istirahay dadka uga faa'iiday u qabo ay adag tahay in lagu aamino hibadaada ay adag tahay inaad Soomaalinimadaada wax ku heshid ay adag tahay wax kasto maskaxdaada ku jira inaad dabada u soo dhigtid oo aad ficil ka dhigtid si aad horumar iyo riyooyinkaaga aad u rumaysid wadanka waxa yimi labada shirkadood oo Turkishka ay wax qayla lagu dhuftay wala labada shirkadood waxyaalaha ay soo kordhiyeen ama ay soo kordhin lahaayeen horta ruqsadda Central Bank of Somalia waa siinay bangi caalami ama ku imaanayo wadan ama foreign bank markuu imaanayo wadanka Soomaaliya waxa laga rabaa halkii adiga Soomaaliga laga rabay 20 milyan 5 milyan isaga 20 milyan baa laga rabaa inuu leeyahay asset ah ama hanti ah si marka risk management uu sameyn karayo oo dadka lacagtooda aan u dhicin marka labada bangi way la yimaadeen wixii alla wixii laga rabay laakiin ganacsato badan iyo bunuug badan ba aad uga qayliyay oo kulay 20kii sanadkii hore ahay dawladahooda markaan dhageysteen waxay u badan tahay bangigani inuu hirgelinayo waxyaalo badan oo aanay bangiyadani hirgelin tusaale waxaan qaatay dhowr jeer baan anigu wax ka qaatay bangiyo rate-ka dul saaran waa 20%. Can you believe that? 20% in a year or in a year and a half. لحي ستيتون بلو. معناه ده حوالي هدي $10,000 قاعدتي $2,000 بكو سعرا وبنجي ده قاركوا 40% عركي سعر. كوا حارك 80 لا شيء لكن أنا وروح 20% مركز لو سعره مرابحه وحارت تدو بحي أما interest rate أما مرابحه I don't care وح الله على يوحي أعتمن كن كفائدي لهي already وحاوش قيس بنجي بعده شقيس وايو 20% فائدة ده أنا asset كهلو والحق بدن وندريبنا 20% وحير معه so 20% يتمنى يكون حدا مال قشان لها ولا بدي يكون أنتمنى كن كفائدي لها already شركة دي بقى ناس بلس ولي بس سنة ضيرة لوسي عالم ك20 سنة 10 شيء 10 سنة اللي يصير لك سوماليا
hal sano 2 sano lagu siinayo wax kasta aad qaadatid. marka labada bangi oo caalamiga ah ee waddankeena yimi wax badan bay kordhin lahaayeen, laakiin waa la xadiday oo waxyaalaha maalgelinta waa laga reebay xaliya, waxaa maalgelin kartaan sababtoo ah waxaa la rabaa in dadku ay shirkadahoodii hore u afduubnaadaan, ninkii lacag haystana uu taajir sii noqdo, kii miskiinka barashada digriga ama master soo dhameeyeyna uu bartiisa iska taagnaado. Okay, waa soo gabagabaynayaa. marka dhibaatooyinka waddankeena haysta oo aynu bangiyada Kenya oo kale ugu yaraan ilayn waddanka kugu xiga waa inaad ka masayrtid sometimes. oo bangiyada Kenya ku yaalla waa caalami, waa international bangiyo aad u waaweyn Kenya. I think Kenya Commercial Bank baa ka koowaad ah oo hantidiisa iyo assetkiisu waxa weeye aad u fara badan tahay. Equity Bank waa isaguna jira aad u fiican, Commercial Bank of Kenya isaguna jira. marka inaga waxyaalaha ayna haysta waxa kamid ah, marka haddaan soo gabagabeeyo doodayda waa ku dheeraaday, sharci waxa weeye sharci dejinta oo aad u liidata oo bangiga regulationskiisa iyo shuruuc aad u liidata. Sometimes xawaaladii ama bangiga gaarka ah waxba ugama baahna Central Bank of Somalia inuu aad way reerkiisa dadkiisa aaminaya, reerkiisa dadka lacag dhiganaya aan soo inkastoo markii dambe la fahmay in ruqsad la'aan aanay cidna ku aaminin, reerkaagana ay dadku ka badan yihiin. waxaa jira nidaamka maaliyadeed oo liita. nidaamku qaabku u liito waxa weeye regulationska iyo ruleska iyo waxyaalaha lacagta adduunka lagu dhaqo ama waxyaalaha banka adduunka u dejiyey in ay la hirgeliyo iyaduna aad u liidata. waxa kale oo aad u liidata la'aanta aqoonsi qaran. waxa weeye qofka Soomaaliga aqoonsi qaran ma leh. mararka qaar waxa la yaabtaa shirkadaha challenge-ga bixiya sababta inuu diidaan Soomaaliya ma ogolin. Okay, why? aqoonsi qaran ma jiro, cidna ku garan mayso. You cannot prove that you are Somali. ma din karaysid. af Soomaali baan ku hadlaa, oromada Soomaaliya joogta waa ku hadashaa, Soomaali way ku hadlaan, iyaguma Soomaali ka dhigaysaa? No. ay reer gadaanahay ama reer bari baan ahay ama reer waqooyi galbeed baan ahay? No, soo cadde hooyadii baa reerkaas ma caddayn karaysid. waxa lagu caddayn karo waxa weeye KYC verification, taasna ma lihiin. inta taas ina ka maqan tahayna ma gaarin. hadda madaxweynihii hore ee 2020 baa wuxuu sameeyey waxaa la dhahaa diiwaangelinta qaranka, habraaca ama sharciga diiwaangelinta qaranka waa la ansixiyey, lama bilaabin. dowladdii hadda timi baa wax ka bedeshay kii hore bilowdayna already oo mandate arkay in la bilaabay. marka taasa waxay iyaduna ka qayb qaadatay inaynu masaakiin laangaaba ahaano, in aadan maanta bangigaaga dhexe waxba aadan ku qabsan karin. simple mastercard inaad lacag ku bixisid, akoon ku iibsatid, shay ku soo iibsatid, wax ku dalbatid, online wax kaga iibsatid aan ahayn ma sii samayn karaysid. kartiduna aad u liidataa oo Central Bank of Somalia dadka gacanta ku hayaan. waayo caalamku maaha inuu ina aqoonsan waaye bangiyadeen. bangiga adduunku waa ina yaqaana, Central Bank of Somalia wuu yaqaana, wuu u diiwaan gashan yahay. macnaheedu maaha Central Bank of Somalia bankiga adduunku ma yaqaano, maaha wuu diiwaan gashan, waa la yaqaana. IMF way ku taqaana, laakiin aqoon la'aan, karti la'aan jirta. waxaa arkaysaa qof baa bangi ugu tegaysaa. fiiri dhibaatooyinka aan arkay waxa weeye bangi baad furanaysaa, qofkii marka aad bangi ka furanaysid I swear to God kan xafiiska fadhiya warqadda markuu kaa qaado iyo qalinka hoos dhow in magaciisa saxiixiisa uu ku darayo 10 minutes buu magaciisa saxiixiisa qoraya. macnaha waxaad ogaanaysaa inuu qofkani, waxaad isdhahaysaa qofkani xataa 8aad muu gaarin, iska daa secondary inuu dhameeyey, halkaas fadhiya. graduation baa lagu keenay, xawlaantii u sarreysay uu fadhiyaa oo verificationka qofka ama akoonka inuu u sameeyo u hagaajiyo. marka taas ayaduna waxay keentay inaynu aad u dambayno. marka saaxiibayaal raalli ahaada, waxaan jeclahay inaan haddaan hadlo aan waxba ka kala tegin si aan su'aal igu soo noqon. axmed soo dhow, dhammaantiin soo dhowaada. asxaabta soo codsatayna dhammaantiin waa idin aqbalaya, dhammaantiin mikrofoonka idin furaya. marka axmed baa inoo qaybinaya, soo dhow. ustaad aad baa u mahadsan tahay. runtii mawduuc aad u ballaaran oo aad ka soo bilowday 1920 ilaa iyo hadda waan joogno. runtii waa muddo 100 sano ah. taariikhda bangiyada Soomaaliya iyo isgaarsiinta iyo runtii meelo kala duwan ka hadashay, dhammaantoodna kusoo biishabanayay haddii financial independent aan la helin waxa ugu yaro ninka dhalinyarada inuusan
yoolashiisa iyo hamigiisa uusan karin. Marka runtii waa mowduuc ballaaran oo aan u baahan inaan sii lafagurno. Maxaa advantage ay leeyihiin bangiyada Soomaaliya dhalinyarada u leeyihiin si ay yoolashooda iyo u gaaraan hamiyadan oo kala duwan. Si gaara dhalinyarada maalgelinta u baahan oo suuqa forex ka shaqeysta si ay u helaan deyn hadhowna ay iska bixiyaan. Ustaadka waxaan malaynayaa in dhaweyto financial independent uu ku jiray oo marka ku dari lahaa xoogaa competitionkii bangiyada localka ah xoogaa wuu soo badanayaa 2 sano 3 sano u dambeysay. Faa'iidada ay ku bixiyaan waxa ugu badan sanadkii 10%. Microfinancing badan baa jira oo World Bankigu ay soo marayaan bangiyada waddanka ka jira oo qaarkood aysan faa'iido saarnayn oo dadka danyarta ah la siiyo oo dadka businesska caadiga ku jira inta badan lagu maalgeliyo. Laakiin waxaa jira oo dhammaan bangiyadu ka siman yihiin qofkii aan haysan business shaqeynaya ama shaqo jirta oo income leh inaan waxba loo maalgelin. Marka taasna waa culays weyn oo dhalinyarada iyo dadka aan waxbarashada ku jira markaas oo aan haysan shaqooyinka iyo ku tiirsanaan dhaqaale ama cid damiinata aan helayn ay adag tahay. Sida ustaadku sheegayay wejigaaga kuma damiinan kara, waxaa u baahan tahay damiinul maal iyo inaad heshid cid lacagtaas bixisa haddii adiga lagaa waayo oo runtii dhaqaale heli karta oo warqad maxkamadaysan ama nootayaysan saxiixaysa. Marka waa xaalad adag runtii oo aan saacidayn dhalinyarada hal abuur kale oo aqoonta forex leh oo maanta aan qaarkood heli karin inay wixii financialka ay brokerada ama ku shuban lahaayeen. Walow hadda accessyo badan ay jiraan oo wax badan oo soo fududaanaya marka loo eego dhinaca shirkadaha fundingka oo dad badan u sahlay inay akoon weyn ayagoo haysta akoon weyn inay qaataan iyagoo aan lacag haysan, registration kaliya iska bixinaya hadhowna loo soo celinaya marka ay ku guuleystaan. Marka runtii ustaadka arrinta uu ka hadlay waa arrin jirta, caqabad weyn oo dhalinyarada soo food saaraysa weeye. Oo dhalinyarada nala midka ah oo wadamada dariska ah uu sheegay aan haysan. Sidoo kale waxaa jirta kaloo ustaadku ka dhawaajiyay oo dee waxaa ka hadlayay baan filayaa dhowr bilood ka hor mar uu go'ay xiriirka shirkadaha World Remit inay ahayd baan filayaa iyo shirkadaha isgaarsiinta Hormuud iyo Telesom iyo Golis. Caqabada weyn waxay ahayd waxa ka hadlayay Axmed Ismaaciil in la yiraahdo aan filayaa mulkiilaha shirkadda World Remit uu kaga hadlayay in hantideeni haddaan Soomaali nahay ay mobile money ku jirto. Runtii arrintaas oo ah dhinaca marka laga eego arrin riski ah. Sida ustaadku sheegay wadamadaas uu tagay oo dadku waxay rabaan lacagtoodii inay gacanta ku qabsadaan oo ay bangiyada dhigtaan. Dadku meesha ay wadamada kale isticmaalaan bankinka, annaga waxa banking noo ah mobileka. Waayo dadkeena haddii aad account banki u sheegtid waxaa laga yaabaa inuu u fahmo accountkan lacagaha lagu diro merchantiyada ama businessyada ku yaala oo meheradaha dhexdooda marka wax laga iibsanayo derbiga ugu dhegan oo mobileka ah. Marka account banki inay fahmaan way adag tahay. Dhinaca kale waa arrin jirta ustaadka arrintu ka hadlay oo ahayd inay yar tahay xirfadda ay leeyihiin qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha bangiyada jooga oo la rabay runtii inay xirfad sare lahaadaan. Weliba meelahaas iridaha laga soo gelayo oo customer satisfaction kuwa ka shaqeeya iyo inay meelo badan aysan fiicnayn. Waa arrin jirta oo marka u timaadid bangiyada qaar ilin ka soo gashid oo kale dadka ku qaabilaya dadka xisaabaha kuu furaya inaysan ahayn dad quality loo baahnaa leh. Arrintaas waa arrin jirta. Marka si guud waxaan rajaynayaa dhalinyarada halkan ku jirta iyo kuwa kale oo fariintani gaari doonto maadaama la duubayo spacekan in ay haddii aan la idmo ka helaan caawa doodan fursadaha maaliyadeed ama bangiyadu ay dhalinyarada u hayaan
ciddina la wadaagaysa insha allah. Marka khayr badan waa ku jirtaa. Dhammaantiin soo dhawaada. Ustaadka ciddii wax weydiinaysa, ciddii recommendation iyo talo iyo soo jeedin haysa, dhammaantiin khiyaarta mar kale waa mahadsantihiin. Soo dhawaada. Si ay noogu fududaato doodan insha allah, qofkii gacanta taagta waa siinaynaa si aan u kala hormarro haddii alla idmo. aad baa mahadsantihiin. Sheekh Ibrahim iyo nin kaloo Siciid la dhaho oo channelka degan baan sugaynaa aan galabta aan kala hadlayna barnaamijka nagala soo qayb galaan. weli waxaad moodaa inaan noo imaan, laakiin Maslax iyo Cabdishaaq iyo Saki soo dhawaada asxaabtiina halka soo saaran. qof kastoo requested ana waan aqbalnay. si marka aad u hadashid fadlan soo dhow, waqti inoo ka dhicin. xaaji mikrofoonka waa kuu furan yahay, waa hadli kartaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وين السلامي مرتدى ماشي جوجت iyo بروفيسور ماشي جوجت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا وقت منه وتعقيب. horta wadankeena markii laga hadlayo aniga waa qasab qof inuu damiin hela. wadamada qurbaha kale qofku adres buu leeyahay, shaqo oo macnaha shaqo rasmi u haystaa. hadda nin dhalinyaro ah oo shaqo haysta dee waa la siinayaa kood buu lacag wixii isagu ku xisaabtamaya oo lacag limit buu qaadanaya oo loo ogolaya deyna inuu qaato. laakiin qof business wadanka gudihiisa raba inuu ka samaystaa qasab weeye inuu damiin soo hela. dhalinyaradana haddee waa ku qasban yihiin inay damiin haystaan. qof aan maanta damiin helayn ma jirto. qof aan dhalinyaro ah oo maanta damiin aan helayn oo helayo oo shaqo haysta qasab wuu helaya. qofku inuu shaqo haystaa haddii business yar uu yahana dee maxaa qura shirkaduhu ka qaadan karaabo, damiinka shirkaduhu aadi karaabo uma baahnaba. laakiin ustaadku waxaan su'aalayaa say dhalinyaradu maartay say dhalinyaradu arrintaasi sidee xagee ka heli karaan, sidee ugu sahlan oo dhalinyarada ay ku fahmi karaan inay bicimsharigaas furan, siday wax ku heli lahaayeen inuu noo sharaxo. asalaamu calaykum waraxmatullah. xaaji aad u mahadsantahay saaxiibo. horta microfinance-ga Axmed baa ina kala jooga, Axmed Mahdina waa inala jooga aan malaynaya. Carafaad Cali oo isaguna wax badan ka og injineerka sina waan u malaynaya inuu joogo. laakiin the only thing aan ogahay waxa weeye in aad lacag heshaa oo aad lacag soo qaadataa wax badan bay kaaga baahanto. shuruudaha waa isla garanaynaa. qof walba oo lacag raba inuu qaato, qofna ma aamini karo shaqadan aan qabanaya waxaan maal gashanaya lacag isii anoo bilaa shaqo ma aamini karo, waa ognahay. laakiin rejection rate-ka iyo soo celinta dadka kadib markay dhalinyartu codsadaan inay lacag helaan xataa iyagoo shaqo $500 haysta ayaa aad u fara badan, because of graduation, because of rare, because of qabiil. waxaa lagu leeyahay kuguma kalsoonin, waxaa lagu leeyahay gelin karno shirkadda waxa aad samaysay. hadda maanta dhaho aniga income-kaygu waa intaas, lacagtaasaan u baahanahay, guri ii dhisa, waxaa laga yaabaa markaba inay 100% ay aadaan sidaan de waxan waa random. laakiin inta u badan graduation-keeda badan, waxaa badan rejection rate-keeda, waxaa badan qofka dhalinyarta inuu niyad jab kala soo kulmo company-ga uu aaday isaga oo requirements-ka oo dhan buuxiyay. I'm not talking about qof bila requirements qof bila damiin ka hadli mayno. qofku damiin inuu leeyahay aqoonsigaaga iyo numberkaaga iyo registration numberkaaga waxa ku ah adeerka iyo abtiga iyo qofka qaraabada aad tihiin ee ku damiinan kara wax haysta. haddana isagoo uu joogo percentage rejection lagu siinay anay ugu soo dhacday, dad badan bay ku dhacday, waliba dhowr jeer ay kugu dhici kartaa. ugu dambeyn haddii aad qof jilicsan tahayna aad ka jabi kartaa, qof adag haddaa tahayna aad shaqadaada sii raadsan karaysa. marka Axmed aad igaga haboon, sidoo kale Cumar waa idin soo dhaweynayaa qolyaha microfinance-ga. sidoo kale waxaan rabaa in shirkadaha wax laga qaato oo kale, inkastoo bari aanu badanahay anigu
aan hadhow wax ka sheegi karo kuwa wax siiyey iyo kuwa wax ii diidayba laakiin sidoo kale asxaab badan oo koonfurta wax ka qaatayna ay jiraan interest rate-ka ama lacagta la dul saaro muraabaxada ana xaqiiqatan aad u badan tahay axmed wuxuu ka hadlay dhowr iyo toban buu ka hadlay waan u malayn dhowr iyo toban waa too much waay weli way badan tahay shirkadaha qaar waxay qaataan 40 kuwa waxaan arkay 40% yarba maalin wuxuu ka qaatay 5,000 imsa ku saaran baan iri arrintii markaan la sheekaystay 39 mi ii sheegay mise 34 mini waaye no way baan iri ii calculate garay waxaan maxaa ka faa'iidaysaa adigii iyagii baa u shaqaysay adigii baa deymaysay ugu dambeynna uu ku deemoobay oo ku ilaa waxay gaadhay inuu heer gurigiisa u gado $5,000 gurigiisa u gado marka axmed soo dhow asxaabta kale oo aqoonta u leh barnaamijkaas microfinance-ga Soomaaliya iyo shirkadahoodana soo dhaweynina xaaji mahadsan yahay ustaadkana runtii lawyer fiican buu yahay dhalinyarada caawa waxaan rajaynayaa akhyaarta bangiyada ka tirsan oo halkan ku jirta inay farta soo taagtaan oo soo dhaweynaya by the way anigu 10 sano ku dhawaad baan ka shaqaynayay sectorka bangiyada xog badan baa ka haya ustaadku siduu sheegay waa suurtagal 40 iyo 39 inay gaarto sababtoo ah bangiyada waxay sameeyaan 1 year markaad ku qaadatid for example hadduu 10% tahay haddii aad 2 year ku qaadatid waa 20% haddaad 3 years ku qaadatid waa 30% marka mar walba aad muddada badisid faa'iidadu way sii kordhaysaa marka taas waa arrin jirta waana suurtagal inay 30 iyo 40 ay gaarto intaba dhinacaas way jirtaa laakiin inkastoo dee ay adag tahay wadamada hadda Soomaaliya la barbar dhigayo oo 3% iyo 2% qaarkood faa'iido yihiin sanadkii aan aad u kala fognahay oo bangiyada riski badan ay ku xisaabtamayaan oo laga yaabo dadka wax qaata inta wax soo celisa 80% ama 70 meelahaas inay yihiin oo 20ka kale wax laga yaabaa soo celin weyda culayskooda waxaa la saarayaa faa'iidada in la badiyo marka taasna arrin meesha ku jirta dowladda Soomaaliyeed oo kabaysana ma jirto dhinaca kale ustaadku markuu sidoo hore u soo sheegeen waxa kaloo jira caqabad kale oo bangiyada haysta oo ah restriction badan inuu saaran yahay oo financial institutionka Soomaaliya ama Central Bank Soomaaliya inuusan si fiican active u ahayn uusan u qareemin bangiyada kale wasaaradda maaliyadda Soomaaliya inaysan wadanka maqaamkiisa iyo heerkiisa xiriirka adduunka la leeyahay aysan kor u qaadeen markasta annaga iyo North Korea iyo Sudan iyo Eritrea iyo Iran aan isku meel ku wada jirno oo leeyahay wax ka mid yihiin wadamada restriction ku saaran yahay oo aan diiwaangelinta lahayn oo aan ID-ga lahayn address-ka lahayn KYC-ga lahayn marka waxaan isleenahay hadda xoogaa xiriirkeen inuu sanad ka dambe soo ronaanayo bangiyadana qaarkood ay kaararkii keeneen Swift-goodii shaqaynayo TT-yadii soo ronaanayaan oo wadamada qaar hadda ayna siinayaan correspondent banks aan lacagaha naloo soo mariyo oo bangiyadan ay aaminaan oo heshiisya la galaan qaarkood marka arrimahaas waa arrimo xoogaa jira oo sanadba sanadka dambe si tacbaan ah wax ugu soo kordhayaan laakiin weli run baa fiicane way badan tahay faa'iidada saaran maalgelinta weliba shuruudda badan ku xiran tahay sida ustaadku sheegay oo by the way lacag ma heli kartid laakiin maadaama waxa lagu siinayo ay Islamic finance yihiin oo muraabaxa ama musharaka ama istisnaac waxa nooca qaadanaysidba ay tahay waxa dhacaysa in aadan lagu siin lacag laakiin badeeco ama service-ka markaa u baahneyd in lagu maal bangi uu ka bixiyo kaliya marka la bixinayo waxa loo yaqaano draft loan ama qard xasanka oo kale in la sameeyo wax la yiraahdo qofka cash la siiyo mana badna inta badan in la siiyo dadka caadiga ah waxa la siiyaa dadka danyarta iyo dadka oo business-yada yararka haysta oo bulshada runtii dhinaca kale marka laga fiiriyo qiimo weyn ugu fadhiyo guryo badan iyo dad badan koriya oo soo saara bulsho badan iyo dad badan oo danyara marka runtii waa mowduuc aad muhiim u ah waan u arkaa anuu barnaamijkan dhalinyaro badan oo aqoon kala duwan iyo karti badan leh waan isleeyahay waxbay soo saari lahaayeen haddii maanta ay fan dhaqaale heli lahaayeen way jiraan waana buuxaan haddii ay heli lahaayeen bangiyo garab istaaga iyo ku saacida inay muddo ka sugaan deymaha si ay uga dhalaaliyaan hamigooda marka akhyaari soo dhawaada
ustaadku runtii hordhac fiican buu na siiyey halkaas aan kasii ambaqaadno kale iyo tusaale ku darsanaysana waa soo dhaweynana waa mahadsantiin cabdifataax soo dhawo السلام عليكم وعليكم السلام cabdiraxmaan سؤاشي هذا أقوله أستاذ سؤال يربان قضاء سؤال واحد تاني بنجيدا الصومالية سوى أقنا هرتا مرك اللي يمعه هو اللوكال كواحد بدن هرتا كود لوكال بريفت كايدت كلية خاصة بنجي وين وقرن كده حيا من الشنالة مجرو تاسنو dowladda iyo lagu eedeynaya wax oo ma aha hadda cid gaar lagu eedeynayo dowladda wadanka dowladdiisa wey marka su-aasha ku weydiinaya waxay tahay ustaadii waxaad tiri KYC firma haystaan marka KYC barnaamijka projectka KYC verificationka maadaama ay jiraan 10 years hadda bangiga daabshiil oo kale oo 30 sano above meelahaas way jiraan wadamadan Kenya dariskana bangiga waxa jira 20 years ka yar haddana KYC verification haysto oo adduunka laga aqoonsiyo so maxay tahay wadada u diidan inay helaan barnaamijkaas KYC verification oo noqdaan bangiyo international sidoo kale waxa jeclaan lahaa inaan noo sheegto bangiyada hadday macquul tahay ka qaadatay deymaha maadaama aan joogo magaalada Boosaaso oo aanu dhalinyaro badan oo jecel la meelaha projectyaas oo kale hadday bangiyada jiraan dad deymaha oo lacag saafisha marka su-aashaan jawaabto taasna waa jeclaan lahaa ka baxaysaa صاحب هذا ما حسنت هذا KYC verification إن إسلا فهنا كوا KYC verification كوا هو يدوانجلين تدوينه هذا كينيا أو كلا ويدوانجشين وأنا اللي يقعنا لا تدونا هل ميل بيكو حريصنتا سيدا درتيد قف مركو دين قادنا يو أما بنجي كوتك فرنا يو already ولا يقعنا قف كان لكن الصوماليا متشرو وحلو يقعنو دوانجلين تقرنك أدوك ما دوانجشين ودي كتا باسبور بان ليهي لكن ما دوانجشين أنا ما دوانجشين عصور taas waxay keenaysaa in bangigu dadku u shaqeynay maadaama aanay diiwaan gashanayn la aamini waayo shaqadiisa loo bogi waayo waayo dadku waxay rabaan population badan waxay rabaan dad lacag haysta waxay rabaan dad diiwaan gashan waxay rabaan dad waxa weeye dhaqdhaqaaq sameynaya laakiin qof isagiiba aan diiwaan gashanayn lacagtu iisoo xereynaya iska maqnaato wey saasa keenaysa in bangiyadii inoo imaanaya oo kale ay xataa yaraadaan ama aanayba jirin oo sanadkii hore 2020 ay u horeysay in bangi international ama bangi muxuu ahaaye aynaan lahayn Soomaali lahayn oo foreign ah wadankeena yimaado qayb ama xarun u ka furto iyaduna dood badan dhalisay waa inuu xintay waa inuu fiican tahay anuguna aan dhanka aan aaminsanahay inuu fiican tahay ay jirto ta kale oo ah lacag qaadashada niyo bangiyada caaw aan sheegnay iska dhanba lacag way bixiyaan dahabshiil iyadu say u jirtay markii hore xawaalad bay markii dambe bangi noqotay bangiga caalamiga ah ee dahabshiil waana bangi caalami ah waana kan aaminsanahay inuu number 1 yahay Soomaaliya marka Central Bank of Somalia laga tago waayo dahabshiil ma noqonayso haddaan Central Bank of Somalia ruqsadda siin ha ka weynaato dahabshiil ha lacag badnaato ha asset badnaato ha macaamiil badnaato laakiin Central Bank of Somalia inuu number 1 noqonay maadaama meeshii wax kasta ka soo farcamay inuu yahay حاجة كلا أو نيو مالجلينتا كله أحمد أنا لا تشوف إنه ورمي دونا لكن أنا بالشركة عن هاد كون نقضي أما ما تشعلينا هرت مالجلين قاطو أما لكن sometimes ظروف بشركة صار بروجكت بكوك الاستاجي أما أرين كاسي وحجران لو تنقصتكم تونكم وحرت أو بعطي هذا سكسو تشيد معها سوق فوركس ميل العقد مركب الجسو تشيد معها هو بروسيس سيدك وأوبا هنكريسا دور شر وانو باهدي لكن هذا فري بانك أحي أو waxaa jirtay mar sanadkii hore iyo kii horeeyay yani u baahbaaday marka Amal Bank oo kale bangi weyn weeye I don't know hatta Amal Bank in qofka leh ma garanayo macnaheedu ma inaan xaysiinay leeyahay lacag doonto uu bixiya wuuna shuruud adag yahay wuuna rejection badan yahay Salaam Bank oo kala kamida dahabshiil kamida waxyaalaha u horeeya haddana bari laakiin waxaan aad u dhaliilaa anigu systemkooda shaqada qaabka ay u shaqeynayaan qaabka sabartigooda qaabka dadka xafiisyada badan u jooga lacagtan faraha badan ee qofkan gabihiisa beeraleyda ama taksiilaha ka yaro ciid ka dhacayso iyo haracu ka dhacayo hor jooga lacagta faa'iidada ama dulsaarka ay saaran too much sida Axmed inoo sheegayna waa run oo back up male hadda
bangigii dhexe ee bangigii Mareykanka dhexe ayaan dhihina bangigii Mareykanka Silicon Valley ee kacay dhowaan lacagtiisi oo dhan waxaa bixiyey federaalka bixiyey waxaa bixiyey fed systemka bixiyey federal bank fedka bixiyey form c ninka Jerome Powell ninka inuu naqaano iyo tiimkiisa bixiyey balaayiin bangigaasi laqay oo kacay meel kacdayna waa garan kartaa maxay u kaceen si loo cunayaa cunay ma garan karno laakiin backup buu leeyahay insurance buu ku Soomaaliya waxay ku anducanay insurance kuma jirno qofkan 10,000 aan iska siinay haddii uu baxsado meel u doonana ma jirto taas waxay keenaysaa Axmed wuxuu ka dhawaajiyay in lacagta dad baxsada ama la waayo ama si kala xudhaca laga sameeyo dadka kale oo interest rate marka la badinayo mararka qaar la badinayo lacagta muraabaxada ama dulsaarka ah in ay u baahan tahay in la eego dadku lacag ma soo celinayaan sanadkii hore oo kale sidoo kale waxaan ogahay kollay asxaabta meesha la joogno sheegmayaan laakiin bangi shaqo u qabto ugu faa'iidada badan waa inuu lacag bixiyo ama inuu maalgelin sameeyo ama raashin ku siiyo ama bahalka waayo marka uu 10 milyan maal gashto milyan oo faa'iido buu helaya fiiri 20% waa 2 milyan in year gudihii magaalada Boosaaso ama Kismaayo ama meeshu rabaa joogo waa hal shirkad maaha wixii ummadda oo dhan ka dhaxeeyay maaha waa hal bangi waxa laga yaabaa 10 milyan inuu ku maal gashto dadka waxa weeye lacagaha ay qaadanayaan soo on 2 milyan oo faa'iido in year gudihii uu ka helo marka kama xumin faa'iidada waa rabnaa qof business kasta inuu guuleysteen rabnaa at the same time waxaan leeyahay regulationski ama xeerarki oo adag oo badan oo aad u adag oo marka aad tagtid ay wadnuhu ku xanuunayso leeniyo ama lagu reject gareeyo lacagtina aad u baahan tahay iyo inta wixii muxuu ahay muraabaxada la dhahay oo iyaduna badan insha Allah ta'ala inaan hore uga socono sida aynu 2014 meel fiican u nimi 2009 meel fiican bay nimi 14 meel fiican ay nimi 18 ما شاء الله ميل في عم بتجي 2021 ومرك أفعنا banking system كإيو monetary funding الصومالي ماشي أفعنا وشوقي I really hope 2025 2024 إن واحد بدن banking system كان إسكابدلو registration كلا سمايو ومد إشتيوان جلسو KYC لا سمايو منوق بدن عالمي أي مادان ميل كستلان كست وحوي أي كست أولان كسم استطولة والبا يدقمو والبا بدكو أي فهمان لعجهن ماشي يعني هدي عاوة كل شيء هدي العج 10,000 20,000 ka badan 20,000 ka badan ay kugu jirto shirkadahan lacagaha e-money-ga haya fadlan kala bax meesha harti la'aad dul ku gado ama guri ku gado aan soo on taas dood kale inoo noqon doonta laakiin waxaan rajaynayaa in Axmed oo bunuugta inoo matalay oo bangigiisa iyo bangiyada la midka ah in dhageysan doona ama in maqlaya in ay have mercy on us waayo waan dareemi karaa qof dhalinyaro مشاهر يرقاته فكر حيا ربا إنه هرجليو. waxyaalaha aad kale waxa kamid ah nin dhalinyaro saaxiib Switzerland jooga waxa uu sheegay 100,000 oo dollar bank ka soo qaato how do bank sidee 100,000 oo dollar bank uga qaadan karto wuxuu leeyahay simple waxaan ku qaatay kaarkiga wuxuu waa kaarkan ku sugidda la dhaho qofka qaxootiga marka uu yahay oo residency-ga waay not hata citizency Switzerland ama limit-ka loo ogol at the end of the day waa in regulations kan la ina ka fudaydiyo si dhalinyartu ay maalgelin u hesho waayo mararka qaarkood hal waxba ku niyad jabin kara fikrad aad haysid malaayiin dollar ka samayn lahayd waxa ku niyad jabin kara $1,000 oo u baahan tahay fikradda ku socodsiis waa ogahay ganacsigaaga u horeeya most likely aniga lacag badan aan qaatay 10,000 qaar ka mid yihiin qaar 20,000 ku dhow yihiin ba iga gubtay 40,000 oo dollar ba iga gubtay ganacsiga u horeeyay it doesn't matter way guban kartaa most likely way gubanaysaa laakiin waxaan aaminsanahay fikrad qof uu malaayiin ka samayn lahaa ku dhac hadaa doon ku fail garow adeen iftiday waa samayn doontaa ana og ilaahay baa ku ballan qaaday hadii aad dadaashina heli doontid hadii aad waxa weeye u orodid inaad samayn doontid fikraddaas in $1,000 u gubato u baabado u dhimato baan diidaya marka Axmed kugu soo ceshay asxaabta kale waa siiyay sorry ustaad aad baa mahadsan tahay gacmo badan baa barkan taagnaa Cabdiraxmaan oo su'aasha keenay baa wali gacanta taagay Cabdiraxmaan intaana khiyaarta kala siin soo dhaw mar kale Cabdiraxmaan Cabdikariim waa maasan tahay laakiin laba Cabdiraxmaan meesha ku jirta su'aashii hore waxaa keenay Cabdiraxmaanka dariskayga ah maasantii islaamada maamul sharafta ugu horeeyo Ustaad Saki iyo adiga Axmed aniga hal su'aal aan watay oo ah horta waan ogahay in KYC-da ka Soomaali ahaan ay muhiim noo tahay waxyaabo badan oo aqoonsiga qofka shakhsiyan xataa
ay muhiim uga tahay. Laakiin ma jirtaa waddo kaleeto waxaa laga yaabaa in processkan KYC-da uu process badan iska qaato. Ma jirtaa waddo kaleeto Ustaad Zaki marxaladan adag looga gudbi kara ka dhalinyaro ahaan laga yaabo inay u baahan yihiin dhalinyarada inay helaan maalgelin ganacsigana dee hadda inta badan hadda dhalinyaro inta joogto waxaa qiyaasa inay inta yihiin forex traders ganacsigana ganacsi shaqeynaya inuu yahay oo maaragtay laga sameeyo sheeg lacag real uu yahay. Ma jirtaa ujiye kaleeto oo loo gudbi karo marxaladahan adag oo bangiyada ay ku amiri karaan dhalinyaradan ka shaqeysata ganacsigan online ee forex trader oo maasantii ku maalgeli karaan. Ustaad Zakariya isku raacinayna insha Allah dhowr su'aalood. Soo dhow Cali Faarax Ciise. waa dhow haysa khiyaarta dhammaan waa salaamaya ustaadkada barnaamijka waxaa inuu dheerada uma ahayn sidoo kale barnaamij aad ballaaran waxaa soo faraxsan lahaa barnaamijyada kale markay jiraan inuu xilli hore nala soo wadaago si xogta oo laisku weydaarsanayo ee u noqoto xog qofka oo research soo sameeyo oo kale oo wax lasoo baaray taana soo faraxsan lahaa. anigu su-aal ma qabo laakiin wax yar maadaama anigu oo kale dhaqaalaha waa bartay ilaa hel master gaaray marka de barnaamijka horta inuu barnaamij aad u ballaaran waaye anigu marka waxaan qabaa maanta banki marka laga hadlayo waxna waxaa dhahaa waa national bank ama federal oo dee waa wixii bangiyada xukumaya oo wadanka monetary policy-giisa ama siyaasadda lacagta ee banki xukumaya waxna waa private banks ama commercial xilga maanta inaga cilada ugu weyn wax naga haysataa central mission yani waxa aaminsanahay maanta horta dadkan private bankiga furtay oo commercial bankskan wadanka shaqeeya inkastoo marka hore dee xawaalada ku bilowday bankiga kuma bilaaban oo wax historygiisa banki ku bilowday maba jiran baa marka hore xawaalada iska bilowdeen hadhow ay baahidan arkeen ay ka faa'iidaysteen dee dadkan ugu faa'iideynaya laakiin maanta cilada ugu weyn waxaa ka jira central bank meesha ma jiro absolutely ani maba aaminsanay xataa shaqooyinkiisi wuxuu qabtaa 10% xataa waayo adduunka marka laga hadlayo horta central bank waxa la dhaho wadamada hore 90% central bank waxa la dhaho waa independent oo gaar ah dowladda uu ka madax bannaan yahay Europe oo dhan hadda fiiriso America waxaa dhan ka madax bannaan yahay dowladaha xajiraanaya oo dowladahan hadda Ethiopia kale iyo dowladahan oo ku jira waxa la dhaho mixed economy ah oo dowladdu maamusho dhaqaalaha gacanta ku hayso aan open economy ahayn in oo dowladdu wada maamusho sida Ethiopia ka darsi albarka dhacay wada maarag laakiin waa zero oo dhaqaalaha waayo dowladdu waxay wada maamusho laakiin wadanku hadduu yahay open economy wuu ka madax bannaan yahay central bank dowlad policy gaar u leeyahay waxyaalaha ku qosla waxaa kamid ah Soomaaliya markii naga laga hadlayo 2014 meelahaas xilligii Xasan Sheekh Maxamed gabar loo magacaabay governor oo qofka madaxda ka ah central bank bas xasishay marka reasonki bixinaysa waxyaalaha isku xasishay waxay tiri madaxweynaha wuxuu lacag iyo soo bank central bank waxyaalahaas oo kale ka jira marka madaxa ninkii oo madaxweyne wadanka ah asagana mas'uulka hadda waxa jira lacag xilliga farmaajo imaaraadka laga qaban jiray dad baa ka dhalatay lacagta central bank ku jirtay hadda maalmadooda xalaa lama hayo lacagta marka horta wax central bank waayo central bank waxyaalaha ugu hore uu qabto waxa kamid ah issuing money inuu sameeyo waxyaalaha ugu horeeya shaqooyinkiisa lacag in wadanka uu sameeyo wadanka lacag kama jiro sidii dowladdu dhacday dee wuxuu qaban lahaa horta shaqooyinkiisa ma jiraan waxa soo haray commercial banks waxa la ama private banks anigu nimankaas 70% shaqadooda waa qabsadeen waayo iyaga waxa laga rabaa kow lacag inay aqbali karaan dadka lacag ku keedin karaan
money deposit inay samayn karaan way sameeyeen. waxaa kaloo laga rabaa waxa la dhaho credit issue haddii badan haddii sanadigu badatay oo soo badatay for example qofku electronic mail lacag inuu kala bixi karo waxyaalaha visa cardka iyo master cardka iyo iyagana waa haddii boqolkiiba 90 I think ay leeyihiin wayna bixiyaan oo waxyaalahan ii sheeg haddii microfinance way sameeyaan cilada haysto waxa weeye microfinance maadaama uu bangigii barefidna yahay oo waxay hayaan wada lacagtood lacag iyagu leeyihiin malaha bank central bank liquidity siinaya ma jiro beri hadday kacaanin oo bankrupt ku dhaco qof oo kabayo lacag siinaya ma jiro taas way u adkayaan meesha ka imanayso qofkan lagu adkayo oo damiin la kaali way bank lacagta isugu maleeyahay wada niman oo waxa waaye ganacsatada isku tigi oo xoogaa lacag soo urursaday intii bay bank ku sameeyeen waxa la wareejinayo oo dadka lacagtooda deposit meesha oo sidaas way dadaaleen aniga tii wadamo East Africa badanaa maray waxyaalo badan kaga fiican Soomaalida koo wax kaga fiican horta lacagtaada ma waayis flexibility 1 million haddii ku taa maanta waxa waaye 1 million haddii ku taa adheedo haaf ma baxaya oo la bixi kara laakiin Kenya haddii joogo ama Uganda arkay Tanzania war haddii ku taalo lacag $100,000 $10,000 ma gelis one day ma lagu siinaa beri soo noqon dhahaya next day come tomorrow marka mid kale ayadan ku dari lahaa maadaama xilitamad iska tahay waxaan ma nood garin waxyaalaha kamid ah inagu maanta waxa laga hadlaa dhalinyartu soo u samayn karaan lacag u heli karaan hal abuur u samayn karaan aniga Soomaaliya inta joogo kolada 5 sano soo maqnaa hal abuur wax ka horeeya qofku markuu sameeyay intaan lacag doon hal cilad badida wadanku arkay adina dhalinyaro tahay lacag badan ka soo qaadatay maada $5,000 ama $10,000 idea cusub baa la timi idea mal gashatay waxa la adduunka entrepreneur qofka ama innovation qofku wax cusub markuu leeyahay waxa la dhabaad tirada la isticmaalo oo qofka waa loo xiraa 5 years 10 years meelaas qofku yahay maadaama intuu uu soo ka samayn karo profit hadhowna uu tartami karo waxa loo xiraa laakiin anaga in dhalinyaro barnaamij islaami oo socdo beri ganacsado 1 million haysta ama $500,000 haysta kacag furana 1 month ku gacaysa 1 month horta taa in laga fikiro dhalinyarta wax badan la daa wadanka wax joogtaan oo malanaya waa ka warhaysaan ani barnaamij badan oo dhalinyar inta keena saa ku kacaar marka iyada taa laga degtoonaado barnaamijka inta dhahin waxa waaye idea cusub haysta idea inuu hayso haddaan u awoodin qof ganacsado ah barnaamijka kula wadi kara oo beri suuq tartan suuq ka jira open way taas ay ku soo gabagabeynaa fikradaas insha Allah markaada ma sintin ustaadkana assalamu alaykum wa rahmatullahi aad buu mahadsan yahay cali faarax xaaj soo dhowow ninka la yidhaahdo dabooli jaamac maya aniga waxaan ku daray dhalinyarada ninkan odaga wuxuu yiri fikrada iska hayso oo maal gashanaysa horta waxa weeyaan Soomaaliya horta systemkii wax lagu deynsan lahaa kama jiro laakiin system waxa ku jira damaanad qof damaanad ka ah marka wax deynsanaysid waa inaad damaanad leedahay haddii aad kaarka wadanku credit card leeyahay baa macnaha card ID card haduu leeyahay wadanka system haduu leeyahay kaasaa ku caawin lahaa hadduu income-ka waxa fir bangi kasta adduunka hadaad tagtid bank kasta wuxuu ku weydiinayaa experience waxa weeye maxaa income ku soo gala adiga shaqadaada maxay tahay markaas lacag alloona qaadan kartaa adigoo aan haysan adres aan laga soo aan haysan shaqana aan haysan deyn baa qaadanaya Soomaaliya ka jirta taas ogaada Soomaaliya ka jirta qof lacag weydiisanaysa oo niyo deyn isiyaatay waji ku garanaya halkaas ka jirta meeshaan hadda waxba ada inta aan sheegay aadaysan waxba waxa isku lugoyn xabad ha isku lugoyn marka
dadka dhalinyarada oo raba inay wax hal abuur la imaanaya waxa bay hal abuurkaagu waa in aad haysataa marka hore kharashkii aduu idea haysta kharashkii wax ku abuuran lahayd waa inaa hesho wey laakiin wadankii oo system aan lahayn lacagaan iska deyminaya cid ku deyminaysa male bangi ku deymina bangi wuxuu fiirinayaa bangi wuxuu ku fiirinaya income-ka adiga kusoo galo ma shaqaysaa intee kusoo gashay lacagtaa kusoo gashay bishii intee bixin kartaa intaasaan bixin karaa mortgage baan guri baan qaadanaya guriga bishkii intee bixin kartaa intee lacagtaada intee bixin kartaa bishii qaadan karta intee heli kartaa kusoo gasha bishiin intee kaa go'do aa bixin kartaa markaasaa macaabil lagula gelaya oo shirkadda waxay kula gelaysaa guri baa qaadatay adris baa leedahay waa shaqaysaa khalaas meeshan soomaaliya waxaas weli waaye bangiyaashan hadda soomaalida waa berefad waaye berefadna waa inaad damiin heshaa idea kasta keenso laakiin waa inaad damiin heshaa damiinkaagaasi wuu yeela laakiin ninku deyminaya maxlaa lacag kaa deymina ma jirto boqolaal soomaaliya lacag laga deyntay waa khasaaray bangi ma yaqaano waa khasaaray bangi wuxuu yaqaanaa waxay iga deymatay isii waxaa iga deymatay haddii waxaa kusoo fuulhayaa ofar lacaga ku fuulaysaa oo ribaa ku fuulaysaa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa waxaa yeelaysin inta ideaha intaa isku duwatiin adiga shaar gala waxaa isku dardarsada soomaalidu businesska hoose qaar ba yaqaano businesska yararka qaar baa ku naaxa businesska yararka meelo badan baa ku furan kartiin isku taga 10 isku raaca wadanka markuu financial fiican yeesho bankiga ku deyminaya damiinu asaltiisu damiina waa iska jira damiinku wax laga deynaa male wax ka deynaya male damiin meel walba waa jira banki markaa furinaysa waa in qof banki hore u furto inaan raacda qofkaas yiraahdaa saaxiibkay waa walaalkay balambalaas u garaaca laakiin meel walba damaanad waa jirtaa adoo haabaha iyo hooyada haysan meel lacag ka soo daqdaqaysanaya cid kaa yeelisa male adoo guri lahayn laakiin dhalinyarada ogaada systemka Soomaaliya waa usoo degi doonaa laakiin waxay u baahan tahay adiga inaad ka shaqaysiin inaad adigu ka shaqaysiin oo awood gelisiin ku naaxi kartaa laakiin haddaad tirahdaan waxba gelin maayo waxba waa rabaa cid waxaasi waa necla lagu halaagsamaya marka aan experience u leenahay waxa weeyaan lacag meel taala oo aan shuruud lahayn cid ku siinaysa ma leh taas ogaada cid ku siinay iska daaya wadankeena ID card ma leh damaanad ma leh nin lacag kaadii ku deymina waa nin damaanad qaba qaraabada yaqaana ninka lacag ku siin maayo haddaa rabtiin macla lacag inaad ka qaadatiin waa inaad adigu marka hore wax gashataa bankiga waa inaad adigu wax gashataa banki maxaa ku soo galaa ma shaqaysaa haa waa inaad adigu wax leedahay waa inaad adigu liis kuu furan yahay waa inaad meesha adigu wax laga arkaa wax ku soo gala la arkaa kow laba bisha intaan soo gashay bishaana wuxuu qaatay qofka waxa soo gala laga fiirinaya adoo ama cuuriyaan ahow ama xayi ahow wax adiga waxa arki ku soo galkaas laga arkaa waxaaga saas Allah lagu siina laakiin haddii tiraadid waxa rabaa hal abuurna waa leeyahay lacag barinta waa rabaa inaan helo sheekaas hal isku ciyaar aha marka dhalinyarada isku ciyaar waa taas asalaam waa maadsantahay xaajiyo hadalkaaga waxaan u qaadanaynaa dhiirigelin maadaama aad tiri xilli waxaan soo marnay bangiyaba aysan lahayn Soomaaliya intii burburka ahayd haddana maanta heerkan soo maraynana ujeedaayo kaararkii waa noo shaqeynayo swiftiyada waa shaqeynayo bangiyada in lacagaha lagu soo diro titiyada wadanka laga diro oo any bank adduunka lacag loo diro ustaadkii su'aal hore waxaa jirta la weydiiyey oo aan filaya Cabdiraxmaan Cabdikariim inuu weydiiyo ahayd maxay muhiim ugu tahay KYC-du ama diiwaangelinta dadweynaha in la sameeyo Soomaaliya Ustaad Zakariya niyahow barnaamijkaas KYC barnaamij dood badan dhaliyo weeye oo sida dawladda ay u bilowday sida dawladdii hore 2020 ay ajeedaheeda u dejisay sharcigeeda tani waxay ka bedeshay qaabka loo bilaabay laakiin uu muhiim yahay baynu ognahay waana su'aasha in uu qofka la yaqaano bay sahlaysaa ninkii dheertaha hore ee yiri fikradaada hayso idna haysaga sheegin lacagna ha u doonaan maal gashan anigu aad uga soo horjeedaa ninkii dheerta hadda hadlay ninka horeey waayo iskeedaba haddii aadan fikirka aad haysid dawladda soo reality u bedelin waa riyo qof kasta oo riyoon kara caawana ku riyoon kara anoo madaxweynaha Soomaaliya noqdo laakiin madaxweynaha Soomaaliya si aad u gaadhid waday leedahay meel baa loo maraa
siyaasad baa loo bartaa, aqoon baa loo doontaa, waxbaa la fahmaa, everything. Marka riyo looma baahno. Haddii aad rabtid waxa aad niyadda ku haysid, caqabad kasta oo jirta ay kaa hor istaagin. Caqabad kastoo ku haysta garbation ah, caqabad kastoo ah interest rate-ka ama waxyaalahan lacagta ah inaad waayi kartid ama ay badan tahayba waxa lagu dul saarayo. caqabad kastoo ah rayskaaga ama cidda aad kasoo jeedid, I mean qabiilkaaga. Soomaalidu waa hal rays, laakiin qabiilkaaga, deegaankaad joogtid, tuuladaad joogtid, iyay kaa hor istaagin waxa weeye meesha aad u socotid. Marka taa ninka intaas kaga soo horjeeda. Soo dhawaada asxaabta kale. Waxaan soo gabagabeynaynaa in 5 minutes. Speakerska Cabdirasaaq iyo ragga dambaynu siinaa insha Allah. Soo dhawaada. haye soo dhow maxamed garaad. السلام عليكم ورحمة الله. aad baan idiin salaamayaa. kolley spaceyada oo Twitter-kan oo kolley iskaba badan hadda intuu qolyahan Twitter-ku ku dareen adeega noocan ah. kuwa noocan ah oo waxyaaba muhiima laga hadlayo horta way iska kooban yihiin. nimankiina qabanqaabiyeyna anigu waan idinka mahad celinayaa. intaa kadib anigu waxa ii soo yarjiitay mawduucan aad ka hadlaysaan iyo xaaladda hadda geyga Soomaaliyeed uu ku sugan yahay. de because wuxuu yar xiisa badan yahay waxa weeye arrinta bangiga aad ka hadlaysaan waxay aad ula xiriidhaa oo marna aynan ka baxaynin state-ka dowladda. marka haddii uu state-ku maqan yahay bangigu waxyaabaha uu qaban kara dhaqaale ahaan waayo aragnimada Soomaalida laga dhaxlay oo sida dowlad la'aanta ah mawduuc kale noqon kartaabo cilmi baaris badan laga samayn karo, laakiin waxoogaa waa arrin xiisaheeda leh. lagana yaabo inaad dalkii joogtaan oo Soomaaliya ku sugan tihiin. anu ma joogo. waxaan idinla wadaagay waa iska ra'yi uun. marka waxaan rabay bal inaan fahmi karno yani dhaqaalahan casriga ah, inkastoo dhaqaalaha xagga financialku dunida uu yar kala duwan yahay, laakiin laba qaab unbaa waaweyn oo qaabkan dhihi karnaba western system koogu yani gundhigu yahay arrimaha interestigu financialka fadhiya iyo financialkan kale oo Islamic financial systemka ay dhahaan oo yani isagu qaab kala ah, completely qaab ka duwan. marka fahankeyga aan inta badan markaa wuxuu la xidhiidhaa kan western systemka ah. marka laga yaabo waa aragnimo iga duwan inaad leedihiin oo qaab kale u sheegi kartaan bangigu functionka uu yeelan karo. marka laakiin angalka ka imanaya babal waxaan rabay ra'yiga inaan idinla yar wadaago arrintaas oo ah yani markaan leenahay state-kuna ka maarmayn bangigu dee waxa uu hayaayay waa money circulation, marka wareeggan lacagta, marka kaydina inuu qabto, loonna inuu bixiyo. laakiin gundhig waxa waa ribo, inuu ribo wax dul saaro. ribadaa marka uu samaynayo uu duldhigga ah, kii loo qabtayna loogu darahayo, kii la siiyey la amaahiyeyna lagu darahayo. xoogaa intan bay yar kala jiraan, qofku maagiisu furayaan u malayn. marka anoon idinku dheeraynin intan marka ay kala jarahayaan oo ay yar kala celinayaan waxaa la sameeyaa saameyn bay markaa leedahay dhaqaale arrintaa interestiga ah. waxaa markaa dowladdu celcelisayay waa kaas inta maamulka inta interestiga ah weeyaan. marka waxaana usii weyn oo macro economy uu galahaya, laakiin wax usii weyn oo bangiga uu markaa qabanayay ugu wahiimsani ugu xooga badan aan dhihi karno inuu xasiliyo yani arrinta dhaqaale ee dadka ay ku sugan yihiin, xasilin oo kale in loo isticmaalo. marka xasilinta hadda yar baa iga hadlay mar dhaw dahay yani bangiyada adduunku way madax bannaan yihiin waxyaabahaas xaaladda Soomaalida iska garanayna. arrinta madax bannaanida uu sheegayo waxa ugu xooga badan waxa weeye siyaasadda in laga saaro arrinta la helo wax siyaasadda ka madax bannaan in la helo dhaqaalaha. oo wax laga wado wax kale maahe fiscalka ay dowladdu samaynayso ama expenditure ha fuliso ama cashuur ha soo ururisay. fiscalkaas waa politics. marka dadka haddii meel mashruuc laga samaynayo, haddii lacaga canshuura dadka laga guray, waxyaaba waa siyaasad wey. marka siyaasadda inay yaraha dejiso oo uu bangigu establish gareeyo muhiimadda ugu weyn intan wey. marka central bank marka inaad heshid
nimankan siyaasiyiintii hadday go'aamo yani dhaqaalaha wax u keenaan fara badan bangigu inuu xasiliyo marka xasilinta uu dhaqaalaha xasilinayo bangigu dee waxaan uu ka hadlayaay waa intan interestiga weya marka in kana kor loo qaado marna hoos loo dhigo marna kor loo qaado marna hoos loo dhigo bangigu inuu intan qabto wey marka xoogaa waxaan bal rabay inaan fahmi karno haddii uusan jirin bangi rasmi ah oo state dowladeed oo hadda dalkii Soomaaliya gacanta ku haya jirin oo monitors noocaasi uuna dalku lahayn dee bangiyadii shaqadoodu maxay noqon kartaa maxay samayn karaan bangiyadii doorkoodu muxuu noqon karaa hadda waxaa muuqato soo baxday bangiyada Soomaaliya aan waddanka waqti maligay ma arkin laakiin dee waxaa la sheegayaa inuu waddanka dhaqaalihiisu completely xataa isbedelay currency-gu oo waddankii economic uu dollarized noqday waa foreign lacag shisheeye wey marka lacag uu dalkii lahayn baa hadda moodaa inuu dhaqaalihii noqday tan marka maxaa keenay iyo bal siduu u sii socon karo waa meesheeda laakiin anigu waxaan u arkaa xataa taale leh dhaqaaluhu wuxuu dollarizer buu noqday hadda dollarka sicirkiisa iyo qaabku isu bedelaya waxaan oo dhani waxaa toos saameyn ugu leh dhaqaalaha dalkii lacagtan lahaa iyadoo toos weliba saameyntaasi bangiga dhaqaalaha ee bangiga sare ee Mareykanku go'aamada uu ka qaato toos waxay u saameynaysaa qiimaha dollarka marka dal kale hadda lacagtiisa aad de macna kalaba intaan la sii aadin waxoogaa way adag tahay inaad dhaqaalahaagii aad maamusho marka ma ogi 100% inuu saa u jiro laakiin arrintan ah inuu xataa waddanka lacagtiisa dollar wax ku kala socdo de monetary-gii uu sida noqonayo su-aashii kale aan yar sheegayba la yar xidhaa oo ahayd haddii aysan jirin monetary policy rasmi ah oo dalkani leeyahay oo toos uga go'aan qaadanaysa ama uga qorshe qaadanaysa xaaladda dhaqaale ee ay sababeen dalka siyaasadihiisan kale dhaqaalaha ku wajahanay monetary fiscal policy ee dalku qaatay arrimo noocaas oo complete universal monetary policy Soomaaliya qaranka Soomaaliya leeyahay haddaysan jirin bangiyada shaqaynayay siday yani xaaladoodu noqon kartaa roolkoodu muxuu noqon karaa maxay samayn karaan anigu waa su'aalo iga yar daaweyn oo bal rabay inaan yar fiirisaa nimankiin space-kan maamulayay ta kaloo iyadana yar xiisaha badan waxa weeye community-gan Soomaalida qaranka degan muwaadiniintu waa dad muslimiin ah marka dee ribaduna muslim ahaan ma banaano financialkooda xakaa marka muxuu ku fadhiyaa hadda community hadda le qofku bangiga lacag geysto yani waxaan su'aasha idin weydiinaya waxa weeye arrintan aan saving-ka iyo spending qofku samaynayo stocks baa jira yani waxa weeye qofku arrintaas u eegaya marka 100 inay haysatid lacagta aan dhahnaba 50,000 oo shilin Soomaali ah ama 1 milyan oo shilin Soomaali ah marka qofku markuu arko ribo sare oo bangiyadu bixinayaan lacagtan uu qaadaya uu geenaya si uu wax ugu helo yani ay ugu samaysan lacag su'aasha marka ahayd waxa weeye qofka Soomaaliga laakiin de mindset-kiisa markaad fiiriso habka uu fikiraya waa qof muslima wey ma dhiirigelinaysaan dhihi karnaa marka inuu yani ribo helo I don't know inaad iga xoogaalsantiin baa laga yaabaa marka waxyaabahan oo dhan ba arrimo waaweyn laakiin nucurka aan ku soo celiyo waxa weeye taa hore oo yani xaaladda bulshadu ku sugan tahay ah oo dhaqan ahaan iyo tan monetary policy-gi labadan haddaynan yani caddayn anigu waxaan si cad uma sheegi karo xaaladda iyo doorkooda waxay noqon karto marka raalli haba maasan maxamed garaad saaxib aad baa umahadsan tahay si aad u guda balaaran baa uga hadashay waqtiguna dabcan aad buu noogu yaraa keliya waxaan sixi lahaa arrinta ku saabsan lacagaha dadka loo qabto bangiyada Soomaaliya ama depositka bangiyada faa'iida lama siiyo dadka lacagaha iskale anytime bay la baxaan fixed deposit kama yaalo wax terms kuma xirna markii deposit ka dhiganayaan anytime buu la imaan karaa anytime buu la wada bixi karaa marka taas waa mid jirta inta badanna bangiyadu waxay ku shaqeeyaan Islamic law oo dhinaca shariicada islaamka sida ay sheegtaan runtii intooda badan aad bay u tixgeliyaan culimada Soomaalida inta fiqiga islaamiga aqoonta u lehna way la shaqeeyaan oo la taliyaal u yihiin dhinaca marka laga eego way ku roon yihiin sidaan qiyaasayo faatax oo gacanta taagayay baan siinayaa kadibna akhyaarta kale ustaadkana kadib insha Allah noo soo gunaanadi doonaa waqtiga aad ugu daahayna waxaan rajeynaa insha Allah inuu warka la soo koobo
wax yar anaa kasoo dhexgelaya faatix oo ii dulqaado waxaan rajaynayaa dadka iga dambeeya inay soo gaamin doonaan maadaama waqtigu soo gurayo marka su-aasha u gelay ustaadi way ka baxsan tahay bangiyada marka maadaama ciwaanka topic la socdo forex suuqa forex aan ku yara noqono ustaadi waxaa jira dhalinyar iska tabar yar oo aan lacago badan abaalasigooda aan shaqeyn marka waxaa jira brokero qiimo yar oo sida funded bibis oo kale haddaan kuu taabto funded bibis waxay bixisaa akoomo challenge oo waxay 5,000 oo 32 sorry ardaygaas cabdiraxmaan abu hawan malaynaya uu ka baxay marka shirkadihii aynu ka hadalnay habeenkii hore baa muddo inuu mawduuceediina ku soo ceshay marka su-aasha mar kalaan ku siinayna insha allah faatixow soo dhow cali faarax iyo seer barsad iyo cabdi baan isku xejinaya marka faatixow soo dhow أستاذ ما سنتهي هذه أحمد رجل كله وواحد وقروح بدن وايد هاي إن لقد ضوضاء أما مارتي وحلا سكير هذا صابته وحي كتر جميسة أما أي مارتي relevant لتهاي لقالها إيو مارتي مركا ودن كوب عيو أما economically وصو خبان أيو وميلا هاي وحكا أساس مانوي financial institutions وانا مارتي وحيالها كوادو مركا أي نقطو فائدة أما contribution ك financial institution كو أي economy u leeyihiin dal kasta in maaragtay mar kasta laga doodo marka waxaan ku dari lahaa waxaan kaliya taaban lahaa dhowr qodob oo yaryar ilama joogin oo kale wax badan baa dhaafay laakiin waxaan waa dhibaatooyinka ugu badan oo Soomaaliya ka jira waxa waaye markay noqoto financial institutions si gaar ah wadanku wax badan buu bilaa dowlad ahaa waxyaalaha kaliya oo maaragtay qaabka bangiga u dhaqmeeyay wadanka ka shaqeynaya waxay ahayn xawaaladaha marka dhowr caqabadood oo ma afar caqabadood oo kalaan kusoo koobi karaa tusaale ahaan oo hadda bangiyadu inay maaragtay qayb ka noqdaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya hadda maaragtay face gareynaya ama ka hor imaanaysa midda koowaad waxa weeye marka horta bangiyadu hadda bay maaragtay hadda registration bay samaynayaan bangiga dhexe la xiriirayaan bangigii dhexe qudhiisii weli ma taagna heer uu maaragtay uu controlo oo parameterska iyo guidelineska maaragtay cover gareynaya ama guide gareynaya financial institutionka wadanka ka dhismaya weli ma gaarsiisana waxyaalaha ugu badan oo hadda dhibaatada hadda ka haysata hadda nin baa ka hadlaya baan umalay magaciisa macaasutee marka bangigu hadda uu rabo inaad lacag ka qaadato dhibaatooyinka jira waxa weeye waxa lagu leeyahay ama qof la kaale mas-uulka baa la leeyahay damiin la kaale baa la leeyahay waxaa laga yaabaa qofkaas bangiga lacagta ka raadinaya inuu qof maaragtay ra'yi ama fikrad ganacsi haya laakiin ma garanaysaa hebel inay halkaas ciriirido ama maaragtay uu saas fikirkii kaga noqdaan suurtagal waxyaalaha dhibaatada marka keenaya waxaa ka mid ah national ID ma jiro national registry ma jiro qofki waxa laga yaabaa hadda wadamadan hadda westiga oo kale qofkii systemku ku jira moogtay bangi haddaad hadda tagto aad rabto inaad card ka furato lacag ba inaad deyn ka qaadataba iyadaan isla gaarin haddaad rabto inaad bangiga card ku yeelato score waxay fiirinayaan wax la yiraahdo credit scorekaaga eegayaan qof reliable ma tahay waxa weeye waxa laga yaabaa wadankaas haddaad telephone qaadato haddaad deyn qaadato haddaad gaari qaadato haddaad guri qaadato systemkaa ku jirtaa marka bangigii wuxuu access u helayaa inuu dhaatadaada eego qofkan waxa weeye credit scorekiisu waxa laga yaabaa waa low waxa weeye sanad hebelu guri meel hebla ka gatay marka ninkan wax guriga ma bixin lacagtiisi gaari buu qaatay ma bixin telefoon ku wato lacagta 5 bilood bixin marka saas bangigii mooki ku arkay marka waxa runtii ku sheegay ku leeyahay maya waxba maaragtay kuma siinayn haddii kala wanaagsanaateen saas kugu siinay marka dhibaatada inay haysatay ka mid tahay oo dawliga hadda haddii nidaamkaas national ID gu dhisnaan lahaa system credit score-ka qofka ilaa markaad ma ogtahay sidaba saving kaliya maaha dhaqaalaha ama financial institutions kama dhisto waxyaalaha ugu badan oo horumarka ah waxa qayb ka ah ama gawaari ha bixiyeen ama dadka guryaha u dhiseen ama maaragtay project sameeyeen oo xitaa dawladda yimiyaan oo wadooyin rabta inay furto dhisto saan ognahay wadamada hadda caalamka waxa laba debt baa jira oo dawladda lagu yeesho midna waa external midna waa internal ta domestic ah waxay meelaha ka timaado qayb bay ka tahay bangiyada lacag ka deemata waxa laga yaabaa project afgooye ilaa iyo jawhar baa waxa laga dhisay project dawladdu ka sameynaysaa dhaqaalaha ma hayso bangi bay tegaysaa waa la siinaya
oo lacagtaa way qaadanaysaa moogta marka waxyaalahaas oo dhan baa qayb ka ahaan lahaa moogta dhibaatada kaloo haysata bangiyada hadda soo koraya oo maaragtay waddanka ka furmayana waxaa ka mid ah in correspondent banking wax la yidhaha uusan jirin oo ah standard ma jiro waddanka gudihiisii dowladdii ay sadgaraysay oo bangiga amal bank haddeer uu maaragtay city bank oo hadda maraykanka kaloo ku yaalla ay toos isula xiriiri karaan oo financial maaragtay transaction ay samayn karaan kaar oo ii sheeg ama visa card ama maaragtay ama mastercard oo amal aan ka qaatay ama premium bank maraykanka waa la tegi karaa lacag waa kala bixi karaa daawan waxba iskama gelin waay kambaniga mastercard baa taas bay kala xiriireen markay amal samaynayeen kaarka laakiin corresponding bank waxa waaye waa in bangigan uu maaragtay reliable yahay waa in policyga waddankaas waddan to waddan labada bangi dhexe ee Soomaaliya iyo Maraykanka waa in xiriir ka dhexeeya oo policy ay leeyihiin oo mid walba ka kale maaragtay oo guidelines leeyahay bangiyadiisa commercialka ay raacaan marka taana waa caqabad in haysato waay waxaan malay qof baa wuxuu ka sharqaminaya hadda oo kale de economygeena waa dollarized problemkeena haystay ka mid tahay innaga Soomaali baan nahay haddana almost currencygeena hadda waxa weeye waa dollarized waxaan US dollar baa isticmaalayna marka waxaa meeshii ka baxaya currencygii shilin Soomaaliga ahaa baa meesha ka baxaya ka hadduusan meesha ku jirin adiga markasta dhaqaalahaagu wuxuu ku xiran yahay oo uu maaragtay tied ku yahay dollarkaas meeshu aadu marba movementiga dollarkaas meeshu aadu ku yahay marka adiga lacagtaadii value ma leh waxaa promote garaynaysaa mar walba oo aad ku taagantahay adiga dollar marka taana waa dhibaato jirta weeye waxyaalaha ka mid kana waxa weeye hadda dee dowladdii dhexe bangigii dhexaan weli awooddii uu controli lahaa markii haddii lacag hadda maaragtay la daabaco oo circulationka waxaan fiat moneyga la yidhaahdo suuqa ay u geli lahayd bangigii dhexaan weli halkaa gaarsiisnayn marka waxa weeye waxay noqon kartaa moogtay challenge so that's why hadda lacagta Soomaaligu de wax hadda si sharci daraa xilliyo hore lagu soo waxeeyay maahane wax ma shilinkii waagaa unbaa circulation weli ku jiro qaarna de waaba meelaha magaalooyinka qaar ama gobollada qaar lama baysta Soomaali ba arki maysid marka taana waa caqabad kale waxyaalaha fursad intan aan kusoo gabagabeynaya fursadda Soomaaliya ay ka haysato oo aan u malaynayo marka financial institutionka laga hadlayo waddan muslimaan nahay hadda ustaadku hadda sheegayay de ribada iyo maaragtay wax islamic financial maaragtay system la yiraahdaa jiro oo ribadan ka soo horjeeda dadka qaar baa waxay yiraahdaan war waxaan been bay sheegayaan oo waa tuugo oo waa kar oo waa wax difference ama jiraan laakiin difference weyn baa jira adoo faa'iido saar oo haddaan bangi hadda inta tago oo aan guri ka qaato islaami ah faa'iido saaran karaa ma aha hadduu faa'iido lagu saarto interest inay tahay interest waxa waaye inaad lacag iibisid aniga bangigaan tagaya lacag baan ka daynsaday lacagtaasu aniga marka because of lacagtaasu uu siiyey oo ideymiyey buu lacagii dul saartay laakiin haddii meeshii uu jiro waxa la yidhaahdo equity based transaction oo aan leeyahay gurigan aan rabaa inaan qaato bangigii baa gurigii soo gadanaya anigu uga sii iibinaya different concept baa jira oo mushaaraka muraabaxa mudaaraba waa kala duwan yihiin marka hadda muraabaxadaas oo kale waa concept bangigii baa guriga soo gadanaya anuu iga gadaya wuxuu leeyahay gurigan waxaan siistay 500,000 600,000 baa kaa siinaya oo faa'iidaan ku saartay waadoo gaari hadda degaday shayna waxna waa cost weeye waxna waxbaa saartay marka lama diidana marka Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti marka ay populationka noqoto muslimka ah ama sida inagu aynu access ugu yeelan karno bangiyada islaamka ah ama xiriirka aan la yeelan karno bruntan kale islaamka ama Middle East ahaadeen ama Malaysia iyo wadamadan ku hormaray ha ahaadeen waa qayb weyn bay ka noqon kartaa waa jaanis weyn way Islamic Financial Hub bay Soomaaliya noqon kartaa because hadda bangiga dhexe shuruudiisa waxaa ka mid ah bangiga lama register garaynayo oo ma gelayo national registryga haddii uusan ahayn bangi islaami ah that's why hadda way jira bangiyada hadda qaar way sameeyaan muraabaxay sameeyaan mushaaraka sameeyaan diminution mushaarakadas ay sameeyaan dhowr conceptyo islaamiga bay sameeyaan laakiin caqabadahaasa meesha ka jira qofkii de bangiga waxa laga yaabaa inuu lacagtii hayaba laakiin dadka uu siin lahaa baa laga yaabaa inuusan garanayn ferina ma samayn karo ma qof kasta ma oran karo ma aamini karo challenge badan baa jira laakiin waxaan u malaynayaa waa dhaanaa meeshaan shalay joognay waa ku dheeraaday raalligaada waa masanti salaamu calaykum علي وعليكم السلام كسو عبد الرحمن استاذ برخد ويه دمانتين waa islaamaya akhyaarta martida iyo dhammaantiin horta bangiyada mar rabo inaan ku dheeraado madaa waqti dambe ay tahay
bangiyada Soomaalida horta meelo waxaa jira xusid mudan oo runtii horumar weyn ay ka sameeyeen sanadihii dambe oo tusaale kale anu meelahan aadka dhihi karo horumar weyn wax ka mid ah teknolojiyadda oo kale maantay wadanka waxa la helayaa bangiyo markii lacag lala baxayo isticmaalaya fingerprint withdrawal oo ah in suul qofkii lacag saaro aan nidaamka ugu sukuuradsana adduunka isticmaalo oo laga tegay in maaragtay warqad la qoray wax la mid ah waxaa ka mid ah in bangiyada Soomaalida qaybtooda isticmaalaan waxa la yiraahdo database-yada ama shirkadaha serfarada ugu waaweyn adduunka sida shirkadda IML oo kale shirkadda Oracle oo kale meelaha runtii bangiyada Soomaalidu aan dhihi karno horumar weyn bay ka sameeyeen oo runtii xusida mudan waxaa ka mid ah in la yiraahdo digital banking oo kale oo horumar weyn ka sameeyeen maanta laga yaabaa bangi in hadda anigu kale bangiyada la macaamilo intooda badan xarumaha ma tago anoo gurigeyga jooga baan lacag kala baxaa tusaale kale bangiyada sida hadda Golis oo kale iyo EVC oo kale waxay leeyihiin nidaamyo kaaftoon iyo magacyo lamid ah oo nidaamka la yiraahdo USSD bangiyada qaybtoodna waxay leeyihiin applicationo sida hadda Premier Wallet oo kale oo ka saacidina lacagta la bixi karo xarunta imaan waxaas oo dhan waa runtii horumar ay sameeyeen meelaha runtii aadka horumarkay ka sameeyeen oo xusida mudaha ka mid ah maanta hadda bangi markii la rabo akoon in laga furo hadda dhammaan bangiyada wadanka 13 bangiba waxa aqbalaan government identity hadda anigu bangi baa u shaqeeyaa bangi document kaliya baa lagu furaa akoon 2014 yani waxay ahayd markii ugu horreysay bangi akoon ka samaysto waxaan xasuustaa anoo phone 2 phone 3 ma qaanaha intii la weydiiyay aqoonsi baa ku aqoonsi melihin soo kaxaysaa leeyahay qaabkaas lagu furo maantana 2023 dhammaan bangiyada wadanku waxay isticmaalaan wax la yiraahdo document dawli marka runtii meelaha ka mid yihiin meelaha runtii horumar weyn laga sameeyay waxa la yiraahdo horta markii maalgelinta laga hadlay bangiyada Soomaalidu waxay wax siiyaan qof wax haysta boontiga uu jira marka anigu shakhsi ahaan 3 meelood waxa jiraan ku dhalisanahay bangiyada Soomaalida aaminsanahay haddaysan meelahaas iska dhisin inaysan horumar saa u weyn aysan samayn doonin mid waxa weeye waxa la yiraahdo advanced payment in qof markuu maalgelin soo doonto kale bangiyada qaybtood qofka waxay dhahaan 30% shub lacagtii maalgelinta taasoo ka dhigaysa qofkii inuu niyad jab ka qaado bal ka waran qof dhalinyaro ah oo rabay mashruuc yar ganacsi inuu samaysto ama kaba soo qaado wuxuu rabay isagoo shaqeeya inuu dhaweeyo ka toogay 30% shubaaliye waa garan karaa runtii culayskay leedahay meelaha runtii hadday aaminsanahay haddaysan bangiyada Soomaalidu aysan inkastoo duruufo iyo caqabado ay sheegtaan yugooda wadankii dawlad lahayn aaminaadii yaraatay iyagii hanti umadeed maamulaha waxaas oo dhan laakiin waa meelaha ay ka liitaan runtii waxa ka mid ah meelaha uu shakhsiyan ku dhaliilo dhammaantood waa hal sector way bangiyada Soomaalidu dhammaantood waa retail bangi way marka hal bangi laga reebo 13 gobol oo ma lahan wadankii diplomatic bangi ma lahan oo wadankii ka sameyn kara maanta mashaariic waaweyn sida wadooyin albaro garoomo wax la mid ah dhammaantood waxay isku caysadaan waxa weeye in 3,000 wax la mid ah la bixiyo investment bangi ma lahan specialist-gaas ama daxwa inuu soo roog yahay wado taxarkii bangi la yiraahdo agra bangi oo beeraha u gaara specialist bangi ah oo khaas ah oo sector gaar ka shaqeeya waxaan moodaa wadanka inuu samayn oo laakiin hadda ay soo fahmiyaan waa meelaha runtii as leeyahay bangiyada Soomaalidu haddii ay yimaadaan bangiye sector mid walba sector gaar ka shaqeeyo inay horumar weyn sameeyaan meelahan ku dhiilaanu shakhsi waxa ka mid ah aaminsanahay haddaysan maaragtay wax ka bedelin inaysan maaragtay caqabad noqonaysa shaqeeyaan waxa la yiraahdo finance period ah waqtiyada maalgelinta ay bixiyaan maadaama reedka ay badiyaan oo 10 iyo 15 ay qaadaan haddana haddii la yiraahdo 2 sano baa ugu badan ilaa 3 sano waqtigu qofku la maqnaan karo waxaad kaanaysaa in qofkiina uu horumar sameeyo iyagina horumar sameeyo si ognahay adduunku bangiyadu wax ka fakaraan qofkaan markuu hormaro dhaqaale sameeyo ganacsigiisa ka boosado mustaqbalka aduu ku anfacaya deposit badan buu ku dhiganayaa dad badan u shaqaaleysiinaya oo isticmaalaya payroll system wuxuu ka faa'iideysanaya serviceyada qaabkaas u fakaraan laakiin bangiyada Soomaalidu waxaad moodaa inay maaragtay sanad 2 sano qofka dhaqaale weyn ka sameeyo hadhowna maaragtay iska fasax ka shaqeyn marka aad iyo aad barmaantiin intaas yar baa rabeen in ku darsado salaamu calaykum السلام عليكم دمان سكرية أحمد إيو تيم ككالتو دقيسانة دمانتين والسلام يا مركي حكتو حاربي إنا كهلو هل قضب أو تدكو بدنا سومالدو مركب بنجيدا لغا هادليو waxay ku leeyihiin aan waxaan ka soo qaatay bangi hebel baadeen ka soo qaatay waxay u haystaan in waxaan ay soo qaateen ay yihiin lacag dadka kaleeto
marka bangiga marka loo tagayo horta lacag kuma siinayo, wuxuu ku siinayaa commodity buu ku siinayaa, raashin ama waxun buu ku siinayaa. haddii uu lacag ku siiyo taasi waxay la micno tahay inuu ribo ku siiyey. marka hal qaab sida uu sheegay Axmed, hal qaab bay ku siiyaan dadka lacag. halkaa qaabina waxa weeyaan inay kugu siiyaan xisaan inay kugu siiyaan. qodobka aan rabay xigay inaan ka hadlo waxa weeyaan adeegyada ay bixiyaan bangiyadu. siduu Faatax ka hadlayay waxay bixiyaan muraabaxa, mudaaraba, mushaaraka iyo istisnaac, ijaara. 6 baa ugu muhiimsan. 6daasi way sii kala muhiimsan yihiin muraabaxada iyo mudaarabada. waa intaan aaminsanahay inay dhalinyarada u yihiin muraabaxada. tan aan isla naqaano way badanaa, laakiin mudaarabada ma bixiyaan bangiyadu. mudaarabaduna waa tan ugu muhiimsan aanu aaminsanahay ee dhalinyarada kabi karta. maxaa yeelay waxa weeyaan mudaarabadu waxa weeyaan waa 2 qof baynu kasoo qaadaynaa, bangigii iyo qofkii. bangigu waa mudarib iyo rabculmaal baa la dhahaa. qofka rabulmaal iyo rabculmaal baa la dhahaa. qofka yani hantida bixinaya iyo qofka la maalgelinayo. marka mid walba percentage buu leeyahay. mid 40% waxay ku heshiiyaan weeye 40%, 60%. khasaaraha haddii meesha khasaara yimaadana qofka maal gashtay ama bangigii baa khasaaraha qaaday. marka systemkaas waa kan ugu muhiimsan aanu aaminsanahay dhalinyarada. badanaa bangiyadu ma bixiyaan. sababta u bixin waayeen waxa weeye in ay ka baqayaan khasaaraha, oo ay mar walba bangiyadu eegayaan danahooda, maadaama ay waxa ay maamulayaan ay yihiin lacago dad kale ay leeyihiin, iyagoo laftooda ay khasaare ka baqayaan iyo mas-uuliyad inay qaadaan. qodobka xiga aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan anoo waqtiga soo gaabinaya, shirkadaha iyo bangiyada keebaa fiican in lacag la dhigto. anigu waxaan aaminsanahay shirkadaha 100 wixii ka badan inaadan dhigan karin. sababtoo ah shirkadda wax rasiid laguma siino, wax cadayna inaad adigu dhigatay. halka bangiga markaa tagtid lagu siinayo oo lagu dhahayo waxaas maal haddii wax kaba heli maysid, waayo labadiina waa khasaarteen. waxaan laga yaabaa inaadan cadayn aadan ku helin inaad lacag dhigatay iyo in kaleeto, laakiin bangiga wixii waa ku leedahay mar walba. tan xigta bangiyadu lacagtaadii say u yihiin markaad dhiganaysid, halka shirkadaha iyo riskigu ku badan yahay. anuu intaasaan kusoo koobayaa, waqtiga aada u yaroo marna de hadalkii haddii laga hadlay waxbaha ku laaban baana siri. waxaan rabaa 2 su-aalood keliya inaan kala weydiiyo ustaad Zakariya iyo Axmedba. Axmed waxaan weydiin lahaa bangiyadu Soomaalidu central bank baynu leenahay. central bankkaasi ma ku jaangooyaa ama bangiyada ma kormeeraa in ay compliant shareeca ay yihiin, ay waafaqsan yihiin qaanuunka shareecada iyo bangiyada islaamka. weydiin lahaa maxay bangiyadu ay ugu meermeeraysanayaan u bixin waayeen mudaarabada. inkastoo aan ka jawaabay, waxaan rabaa in jawaab kaleeto aan ka helo. wasalaamu calaykum. وعليكم السلام. عبد الرحمن aad buu mahadsan yahay. ustaadka u dambaysiinaynayo uu noo soo xiri doonaa barnaamijka haddii aan la idmo. runtiina marka hore background dheer oo bangiyada Soomaaliya ku saabsan iyo adeegyada waddanka ay ka hayaan buu kusoo bilaabay barnaamijka bilowgiisii. su-aashaas haddaan u gudbo cabdiraxmaan, intaan ka ogahay central bankiga Soomaaliya horta weli kalsooni badan bangiyada kuma qabaan, walow uu regulationskiisa qaar ka mid uu hirgeliyey. laakiin haddana waxa ugu muhiimsan oo bangiyadu ka saacida waxa weeyaan dhinaca tababarada iyo compliance-ga inuu jeegareeyo iyo waxyaaba noocaasa. weli ma jirto inuu central bank uu deposit ka hayo bangiyada si uu khatarta u ilaaliyo in cid walba ay bangi iska noqon karto. laakiin inuu laysan ka qaado oo uu fee ku charge gareeyo sanadla ah, laysan ganacsi oo bangi uusan siin uusan waddanka ka jirin, taa way jirtaa. laakiin waxaan ognahay bangiyada waddanka ka jira weli si sax inaan loo regulate garayn, central bankiguna uusan weli shaqadiisa si fiican u hayn waddanka oo curdana awgeed, iyo financial institutionka oo weli bilow nagu ah. central bank oo asagii la rabay inuu manage gareeyo
ka dambeeyey bangiyada taasna way jirtaa marka dhinaca barnaamijkan caawan ka hadlayno runtii marka aan bangiga anigu aan ka tirsanahay oo credit committeegiisa aan ka mid ahay uu yimaado nin dhalinyaro ah oo deyn raba sida loo falanqeynayo mararka qaar waa ka naxaa inta badan waxaan jeclaystaa in ninka dhalinyarada wax u fududaadaan waayo niman odayaal ah oo muddo soo shaqeynayay oo aan arki jirin nidaamyadan casriga iyo sarifka suuqyada oo forextaas oo kale iyo baa mararka qaar xubno ka ah oo madaxaas oo kale waxa suurtagal in dhalinyaro hadduu yimaado xafiiska uu yiraahdo waxaan ka shaqeeyaa suuqa forexta waxa u baahnaa in maalgelin la siiyo I'm sure investmentiga officerka bangigaas jooga inuusan failka xataa ka buuxinin iska daa inuu guddiga u gudbiya marka waa qeyb ka mid a culeysyada dhalinyarada haysta oo weliba dhalinyarada forexta ka shaqeysta qeyb weyn oo ka mid a marka waxay noqonaysaa inuusan ku dhiiran shaqadiisii iyo ganacsigiisii oo aan hubo inuu ka fiican yahay boqolaal qof oo kale oo shaqooyin mushaaraad badan la haysta inuu asagu ka fiican yahay haddii fikirkiisaas iyo aqoontiisaas lagu taageeri lahaa fan la siin lahaa marka cali faarax oo gacanta taagaya siinaya kadibna insha allah ustaad zakariya baan u daynayaa dhowrkaa su-aalood iyo gunaanadka barnaamijka guud ahaan inuu isku soo xooriyo haddii aa leedmo waa mahadsantahay cabdisaxo may wax yaraa raba inaan soco hadday ustaadka xore yiri kuma qabo marka waxaan ka waday barnaamijkan qofku dhalinyarta markuu la imanayo fikrad cusub hore waa fikrad ina maalgashado oo weli uu ku maalgashado deyn caqabada ay ku leedahay inuu suuqi tartami karo marka ani waxaan ka waday markaan la imanaysa ani ma ka hadlayo manaa suuqa inaad ka furatid suuqa businesska jira hore ama maqaaxi meesha ka jira cafeteria kale saddexaas oo kale laakiin waxaa rabaa fikrada cusub inta la timi soo diraan dhirti kaa gale business baa u samaysatay lacag deyna oo 10 kun oo kale aa ku kharash garaysay aa rabto inaad ka faa'iidid haddii bil ku socon wayda ka hor oo nin ganacsada ah oo waxa waaye 10 sano suuqa kusoo jiray intaasoo lacag haysta oo ka ag furo oo adiga 2 bilood ku kacday beri ka maalina waxaa la yaabaa ninkaas uu ku macaashayo adigana suuqa ka baxday dhalinyaro badanna anigu arkay oo barnaamijkaas ku dhacay xataa kuwa loogu cagjoogleeya arkaan oo la yidhi barnaamijkan lagu soo wareeji inta laga afuray waxaa weeye weliba shirkadaha ugu waaweyn waxaa weeye dalka Soomaaliya marka aniga waxaan ka waday qofka dhalinyarta barnaamij cusub oo gadmaya oo innovation u la yimid hal abuur waa ina u haysataa capital ku filan marka rabta inaad la gashato adigana suuqa ka baxee fikradaasi dada aa ku faa'iida adigana banaanka ka joogtaa caliyow aada u mahadsantahay caliyow saaxiibow doodu kolley waxay ahayd inta aa sheegtay anna kasoo horjeedkii aan joogay marka haddii qofkii inta hadda ka dhawaajisay ay tahay oo qofkii ay dhacday marar badan in fikirkii aa keentay uu qof kaa hanti badan kaa waayo aragnimo badan kaa khibrad badan uu kaa qaato is okay adiga casharay kuu tahay isagana waxbay u tahay fikrad fiicanaa hayaa at least haddii aan anigu ka faa'iidaysan waayey waa inaan cashar ka barto ogaado hanti inaan u baahanahay si aan mar dambe la ii garbin isaguna walaalkayna uu ku faa'iido idaas maata laakiin inaan fikirkii la dhinto oo la godgalo ama isagu igu dhex dhinto ama iga dhinto waxbay ma samaynayso marka saaxiib aad ugu mahadsan tahay doodaada dhammaantiin saaxiibayaal waa ku mahadsan tihiin kasoo qaybgalkiina quruxda badan insha raxmaan doodaha noocan waa badin doonaa waa sii wadi doonaa waayo waxbarashada ama aqoonta waxay ku korodhaa discussionka qofna wax yaqaano hadda kumuu dhalan qof wax walba xifdisan ma uu soo bixin laakiin wax walba waa la geyn gareeyaa waana la bursadaa waana la bacsadaa si aad u gaadhida usoo qabatid I hope intaas inay wax badan oo brief story about banking system in Somalia idin noqoto
si aad ugu yaraan waxuun idea uga haysatid. This is just the introduction aqoonta banking systemka Soomaaliya, banking systemka ama Islamic banking system ku weyn yahay intan iyo boqolaal zoom oo noocana ama boqolaal space oo noocana aynu qabano. waana aqoon aad u guda weyn qofkii raba inuu bartana uu baran karo si online u baran karo. masters ku diyaarin karo hadduu business wax la mid ahaa ama economy oo kale. marka at the end of the day maalinta hadii macnaato habeen waxa baa idin rajeynaya space-ka ma rabin inuu 1 hour ka bato laakiin hadda 2 hours oo go'aan buu taagan yahay 10:30 to 12:30 habeenkoo idin wacnaado. amaana allah. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.